kooban yahay waxaan rajayn doonaa in khudbadaha aan soo gaabino oo waqti badan naga lumay si aynu fursad ugu helno in dadku ay aragtidooda iyo tashigooda ay ku biiriyaan madaxda ku hawshaysan dib u sixidda dastuurka Soomaaliya waayahay aayadaha quraanka kariimka sida caadadiga ah baynu ku furanaynaa insha Allah bismillahir kariim insha Allah qof volunteer ah shuyuukhdu way fadhiyaan الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إلهي سبحانه وتعالى أيام هذا السكلة وحان مركلة عن نفتي ذي كسوق الجلياشة كلا دوان قيبتنا يمرتيهين وزير فدرال كهير فدرال iyo madaxda golayaasha kala duwan ee Puntland iyo marti sharafta bulshada rayidka dhamaantood waxaan ku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh naftayda iyo idinka waxaan idin dardaarmayaa Allah subhanahu wa ta'ala ka baqidiisa waxaan ku jirnaa bil Ramadaan waynu soomanahay Ilaahay ayaanu subhanahu wa ta'ala u soomanahay amarkiisa ayaanu qaadanay islaamnimaduba waa inta waa hoggaansan sida qof loo taliyo oo amar la siinayo amarkana Ilaahay dartiis u qaadanayo wixii laga reebayna ka haraya taa ayaa islaamnimadu marka la fasiro ay isugu imaanaysaa dastuurka halka loo fadhiyo laftigiisu wuxuu ka tarjumayaa islaamnimada laftigeeda maadaama dadka lagu dhaqayo la rabo loo diyaarinayo ay yihiin bulsho muslim ah waxaan u rajaynayaa shirkeena inuu noqdo shir miro dhala maslaxadeena iyo danteena Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu noogu dhameystiro sida wanaagsan Ilaahay uu waafajiyo waa mahadsantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wasiirka dastuurka dowladda federaalka gudoomiyaha baarlamaanka Puntland wasiirka dastuurka ee dowladda Puntland wasiir ku-xigeenka agaasimayaasha dhammaan wufuudda martida nooca ay ka timid Mogadisho dowladda federaalka ee marti sharafta oo waliba marti sharafta aan ka raali gelinayo daahidda ee naga daahday barnaamijka oo culays saarnaa waftiga ay daraadeed ku baaqatay inay naga raali ahaadaan xaqiiqiyan maanta waxaan isugu nimid waa wax masiirkeena ah waa wax mustaqbalkeena ah waa wax ayaheena runtiina waxaan isleeyahay haddii laga hadlo dastuur waa social contract waa wax qof kasta uu wax ku leeyahay oo naga mid ah waa waxaan wada qoranay qof walba qayb uu yeelanayaa waa waxaan wadaagno inaan u aragno in qof walba uu tiisa ku darsado mujtamaca qaybihiisa kala duwan maantayna tan aan isugu nimaanay waxa weeyaan qaybta hore hadda bilowmatay waa wada sheekaysi iyo afkaar la isdhaafsanayay hawsha gudagalkeedu waxay bilowmaysaa bacda Ramadaan markaasna dadka khubarada aqoonta u lahaa iyo dadkii kala oo geli kara gelaya insha Allah iyadoo Soomaalidu u siman tahay sida anagu waxaan ka qaybgalnay shirka hore oo wasiirka iyo tiimkiisuna soo dhaweeyeen ayagoo aad u mahadsan Muqdisho xaqiiqiyan wax badan bay qabteen waxaan isleeyahay dadkii ugu habboonaa ee Soomaalidu u matali lahaa ba hadda matalaya oo tiimka hadda wasaaradda dastuurka Soomaaliya waa dad ku habboon runtii aad baan soo dhaweynayaa wasiirka iyo wasiirka radio har baan wadanahay oo magaalada ka dhimid xaqiiqiyan waxaan isleeyahay dastuurkii hore isku dhici iyo isqabsigii hore ee jiray waxa looga dawoobi karaa kan oo qayb laga wada qaato oo qof walba uu aragtiisa runtii waxaan isleeyahay qaybaha ugu badan waa la subiyay dastuurka waa inta dhiman oo ugu badan qaybsiga khayraadka iyo waxyaabaha dhiman xasaasiga ah in ayaga la galo waxyaabahaasna waxaan isleeyahay si midnimo oo Soomaalinimo in loo eego oo qof walba uu qaybtiisa ka qaato xaqiiqiyan hadayta waan ku celinayaa hadalka dayta aan ahaa dastuurka in dadku u arkaan inuu yahay mid aan qolo lahayn ee uu yahay mid Soomaaliyeed ah sidaa daraadeedna qof walba inuu ku qanco inta aragtidiisa uu ku darsado laakiin inuusan isku qancin inuu dhamaantii asoo wada yeesho waxaan filayaa Puntland haday ama aan ku yeelano 30 ama 20 ama 40 in ay joohar yeelanayso qayb inay baydhabo yeelanayso qayb inay Kismaayo yeelanayso qayb in maamul goboleedyada dhan qof walba uu qayb yeelanayo in dadka Soomaalida ay dibadda ku nool ay laftooda ku leeyihiin muwaadiniin weeye inay ka dhibtaan aaraadooda wax ku biiriyaan
in dadka indhaha ay qayb ku leeyihiin curyaamintu qayb ku leeyihiin dhalinyaradu qayb ku leedahay xaqiiqiyan marka waxaan kusoo koobi lahaa maantay waa maalin weyn waana qayb ka mid ah aayaheena iyo mustaqbalkeena ummadina waxay ku horumartaa xadaaradeeda iyo nolosheeda waa dastuurkeeda iyo waxa iyadoo ay ku heshiiso inay fuliso maalin walba isqabsiga iyo dhibaatada waxaa keenaysaa hal fariin baan fari lahaa wasiirka iyo tiimkiisa iyagoo mas-uuliyad ka saaranta tan ummadda Soomaaliyeed problemka ugu badan ee Puntland ka taagan hadda annaga si society ahaan waxaan concern ka qabnaa oo taxaddar ay tahay in laga feejignaado arrinka isku dhaca keena badana waxaa jira Puntland sidaan u aragna annaga waxay soo dhiseen muddo dheer waxaana jira shuruuc badan oo Puntland laga ansixiyay waxa kamid ah tifishinka hadda oo la isku haysto qayb resource loo qaybsan lahaa tan waxbarashada manaahijta oo Puntland ay horay u lahayd manaahij hore oo haddana federal xoogaa asqabsi aan maqlaynay waxa kamid ah midka sharciga dhalinyarada Soomaalidu waa dhow in la ansixiyo la isku qabsaday waxa soo socda dhammaan wax walba la isku qabsado taa waxa loo gudbi karaa ila tahay in shuruucaha hore ee maamul goboleedyadu lahaayeen iyo kuwa dawladda federaalka wasaaraddu inay suubiso harmonization oo marka hore la soo eego wixii farq u dhaxeeya la isu ururiyo saanba hadalba u dhicinba laakiin in marka hore runtina xaqiiqda waxaan dareemayaa waxa hormaray maamul goboleedkii macnaha federaalka waa hormaray shuruucda inta iman lahayd qaladka ugu weyn taasi ka dhacday oo in shuruucda noo horeyso la haboonaan lahayd marka waxaan isleeyahay wasiirka waxaan ku dhiirigelinayaa arrimahaas ay u yaraadaan tan manaahijta tan dhalinyarada kalluumaysiga waxa la isku hayo dhan in hoos loo wada hadlo oo marka la isu soo dhaweeyo aad iyo aad baad mahadsantiin wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم دمانتين وحان السلام يا سلامة السلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحان هذه عن نسو دوين يا وفتق وقامين يو وسيرك دستورك دلمان حوش يو مرتدى كلا ميشان جوكتا حوشة وسيرك ويمي وفتقيسو كصابصان دبيويس الدستور waxaan qabaa dhamaantiin waa garan karnaa ahmiyada ay leedahay oo dastuur u leeyahay ummad meel degan ee maamul leh ee rabo nidaam dawladnimo inay ku shaqeeyaan inuu asaas u yahay inay dastuur leeyihiin kulligan waan garan karnaa waxaan filayaa dastuurku waa qaynuunka yani ummadaas oo dhan yani marjac u noqon kara ay isku xukumi karaan ay ku kala damayn karaan waxaan kaloo aynu ogsoonahay inagu haddaynu reer Puntland oo maanta wafdigan federaalka ah ee dastuurka hadda ay la joogaan innaga iyo dawladdeena federaalka marar badan wax badan baynu dastuurka ku wada hadalnay wax badan baynu ku doodnay marar badanna waxaa imaanaya khilaafaad xoogaa aynu ku kala hakanno arrimaha dastuurka waxaan filayaa ma ahayn dagaal laakiin waxaan filayaa isfahmi waa xagga wada shaqaynta dastuurka in lagu wada shaqeeyo ayaa asbaab u ahayd taana waxaa keenaysay anugu waxaan qabaa ani ahaan markaan fiirsho yani aqoontayda iyo intaan joogay oo aan maqaantiga ka ahaa Puntland mar walba waxay ku dheganayd qanuun bay ku wada shaqaysaa dastuurka dalka Soomaaliyeed loo sameeyay isagu marjac inoo ahaado ha lagu wada shaqeeyo isaga ayaa muxuu ahaa baahidihii dawladda kala hagaya haddii tahay heer federaal haddii tahay yani muxuu ahaa heer maamul muxuu ahaa goboleedka wax kastaba ha noqoto waxaan aad ugu faraxsanahay inuu noo joogo maanta wasiirkii xilligii la sameynayay dastuurkan la sameynayay isagu ahaa dadkii wax ka sameeyey ama mararka qaarkoodna isagu ahba wasaaradda ka ahaa wasiirka ahaa galaangal badanna yani ku lahaa sameynta dastuurka wax kastaba ha noqotee maantana waxa weeye isagu wasiir ah inuu kusoo noqday wuxuuna aad iyo aad hadda ugu dadaalayaa sidii dastuurkii dib eegis loogu samayn lahaa sidii waxay ka dhimanaa loo dhammaystiri lahaa innagoo dhanna waxaan filayaa ama Soomaaliya oo dhanna waxay u tahay fursad bay u tahay oo dastuurkaas hadduu hagaago waa meeshii ay wax ka unkamayeen kulligeena yani aynu muxuu ahaa
ayna ku wada shaqayn lahayn waxaan ku faraxsanahay haddaan nahay ummadda reer Puntland inaan soo dhaweyno wasiirka iyo wafdigiisa contribution fiican aan siino la shaqayno waayo haddii aynaan dastuurka u asaaskay dowladnimada weeye haddii aynu dastuurka uusan u istaagin dowladnimaduna istaagi mayso mar walba khalkhal iyo dood iyo muran isqabsi baa jiraya waxaan ku faraxsanahay wasiir inaan contribution fiican ay reer Puntland ku siin doonaan kula shaqayn doonaan gacan weyn oo heliyo hoobala ay ka qaadan doonaan hadduu ilaahay wixii talaana aad ka heli doontid waana ugu culus tahay xaqiiqadii inaanu dastuurka Soomaaliya in cagaha loo dhigo oo la hagaajiyo oo la dhammaystiro waayo haddii kale wixii lagu wada shaqayn lahaa oo maamul goboleedyadii iyo federaalkii baa adkaanaya resource sharingkii baa adkaanaya qaabkii dowladnimo lagu wada shaqayn lahaa cid walba wixii lahaan lahayd baa adkaanaysa mar walba dowladda khalkhal iyo waxa weeye iska horimaad waxa weeye muxuu ka bixi mayso marka waxaan leenahay aad baan ugu faraxsanahay waana ku soo dhaweynaynaa wixii contribution waxaan filayaa rag badan aqoon-yahannada baa fadhiya oo ku filan oo waayo araga oo ku siin doona shirkuna waa inoo furan yahay waana mahadsantihiin aad buu mahadsan yahay faysal aad buu mahadsan yahay waqtiga aad baa looga waxaan codsanayaa madaxdu inay kelmadahooda aad u soo dhaweeyaan ugu dambeyn waxaan soo dhaweynayaa wasiirka arrimaha dastuurka ee dowlad goboleedka Puntland wasiir Cali Ciise kadibna si toos ah waxa hadalka wala wareegi doonaa wasiir Hoosh kadibna sessionka waa inoo furmi doonaa ilaa idinka bismillah waftiga inuu ka yimid dowladda federaalka oo hogaaminayo wasiir Hoosh aqoon-yahanada dadka kala duwan ee ururada bulshada ee shirkan isugu yimid aqoon-yahanada laamaha dawladda miidiyaha iyo dhammaan inta na daawanaysa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh marka ugu horeysa horta waxaan cududaar runtii aan ka bixinayaa waqtiga oo aad in badan dadkuna sugayeen shirarka aan ku jiray awgood taa lafteeda meelo badan aan rabay inaan ka hadlo waxay igu kalibaysaa inaan soo gaabiyo hadalkayga waxaan yar rabaa inaan taabto waftigan inoo ka yimid dowladda federaalka ujeeddada guud ay u yimaadeen horta waxa waaye halkaa waxayna ku qoran ololaha xog ururinta iyo dib u eegista dastuurka dib u eegista dastuurka muhiimadda uu leedahay intaanan u gelin waxaan rabaa inaan hal kelmad xusuusiyo dadka walaalaha ay dhegaysanaya wax badan baad waxaad maqasheen iyadoo la leeyahay qof waliba markuu sheekaynayo madax iyo mijo iyo mutacalimiin iyo cid walba 26 sano oo Soomaaliya ay dawlad la'aan ahayd kelmadda wax badan baad maqasheen laakiin haddaynu u fiirsano kelmaddaas anigu waxaan qabaa inay sal inay u ahayd waa mid ee horta marka ugu horeysa dastuur la'aan oo sharciina kala celinaya hadduu jiro dee dowladdii Soomaaliya dadkii Soomaaliyeed sidaa uma baabeen number 2 haddii uu jiro nidaamkan federalism oo dowladdii dhexe baawarkeedu uu ahaa hal meel hal magaalo hal ma garanaysaa muraayad oo qofkii doonaya Soomaaliga maanta baasaboor doonaya ee garow intuu ka tago xamar u doonanayay caloolaka ka yimaada oo xamar baasaboorka u doonanayay ninka iskuulka iyo gabadha iskuulka high schoolka marka jaamacadda xamar u aadayeen dowladdii dhexe ee centralistka ahayd ayaan lagu tiriyaa dhibaatooyinkii ka dhacay oo hal mar dumista ahayd in dalku dumo waxyaabahaasa ku jiray marka haddii uu dalku yeelan lahaa barnaamijka federalismka iyo dastuurkiisii oo ku qotoma waxaan ina kuma dhaceen si loo helo marka arrimahaas looga digtoonaado ayaa waxay noqotay in xoogga dowladda dhexe ee maanta jirtaana saarto wasiirkeena inala joogo iyo waftigiisa hawsha tanna loo galo barnaamijka dib u eegista dastuurka marka waxaan ku boorin lahaa dadkan mutacalimiinta ee aqoonta leh halkan fadhiya in maaragtay laga fakaro arrintan dib u eegista dastuurka iyo xog ururinteeda marka
marka waxaan oran lahaa runtii waxaan oran lahaa ha laga fiirsado arrintan aad looga fiirsado qoraal iyo hadal iyo maskaxba aynu ku hawlgelino aynu kala shaqeyno waa shaqadeennii waa hawsheenii waa maaragtay wadnaheennii sida ay maaragtay bini'aadanka wadna hadduusan lahayn uusan u shaqayn karin ayuu sharciga dastuurku wuxuu yahay inaynu maaragtay wadnihii dee dalka aan ugu dambayntii hawlihii badnaa ee runtii lasoo qabtay oo wasiirka iyo tiimkiisa lagu ammaanayo runtii ayaa waxaa ka mid ahaa inaan already la bilaabay processkii 2 sano gudahoodna runtii wasiirka inaan u dhaafay baa ahayd arrimaha isaga inoo geli doona laakiin 2 sano gudahood in arrinta lagu soo koobo si looga gudbo caqabadaha faraha badan ee jira dalkeenuna horumar u gaaro intaasaan hadda kusoo dhaweyn lahaa kusoo gaabin lahaa waad mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa mahadsantihiin aan soo dhaweyno wasiir xoosh wasaaradda qaybta kale ee la socota wasiirka su-aalaha marka discussionka la weydiinayo bay iyaguna qaybtooda qaadan doonaan mudan waxaan salaamayaa gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka puntland wasiirka dastuurka arrimaha dastuurka puntland wasiir ku-xigeenka arrimaha dastuurka ee puntland ururada bulshada ah dumarka saxaafadda kulligiin waxaan idin leeyahay asalaamu calaykum waxaa fursad weyn noo ah inaan maanta aan idin nimid idinkoo ah bulshadii rayidka ah aanan idinkala qayb gelayno ama idinku soo dhaweynay qaybihii ugu horreeyay ee ah dib u eegista dastuurka saa ogtihiin ama miidyada kala socotiin 2 bilood oo lasoo dhaafay waxaan wadnay wadatashi aada u weyn oo aan la tashanaynay bulshada qaybaheeda kala duwan sida dumarka culamo diinta dhalinyarada ururada naafada ah intaas waxaan kula kulannay xamaraan kula kulannay dabcan dib eegista waddanka dhan in la wada geeyo waayo waxaan goosanay marka balankeen qorsheena ku jirtay inaan tagnaa maamul goboleedyada dhan markii aan taa goosanayna waxaan qaraar ku gaarnay wasaaradda inaan meesha ugu horeysa aan tagana inay tahay garoowe puntland sababtuna waa iska caddahay waxaa waaye garoowe waxay ahayd meeshii martigelisay dastuurka hadda aan qabno ololihii lagu sameynaya meeshii martigelisay 2011 iyo 12 tan kale waxa waaye waa aabbihii federalismka federationka aan bilowna aan hadda ku soconno fikradeeda meesha ka bilaabatay waa halkan marka waxaan goosanay inaan ugu nimaadnaa daafurkii inaan uga bilownaa halkankii regionska shalay si fiican naloo soo dhaweeyey wasiirka iyo wasiir ku-xigeenka iyo asxaabo kale madaxweynaha waa is aragnay xabiiskiisa nagu soo dhaweeyey si diirna naloo soo dhaweeyey waa nala dardaarmay wuxuu naga ballan qaadanay inuu nala shaqayn doono haddii ilaaha yidhaahdo wixii support aan u baahannahay hadda waxaan ka nimid golaha baarlamaanka oo aan la kulannay gudoomiye ku-xigeenka iyo madaxda guddiyada joogtada ah ayagana si fiican inoo soo dhaweeyeen wayna noo ballan qaadeen anigana waan weydiisanay waxaan idin baahannahay puntland ay la garab taagnaato geedi socodkan dib u eegista dastuurka aan ku wadno wax fudud ma aha maxaa yeele waxyaalo adag badan la isku haystaa jiraan marka inay hormuud u noqdaan sidii loo dhammaystiri lahaa dastuurkan sababtan wax kale ma aha waxaa jiro aragti ama perception ah soomaalidii in dastuurkan uu soo jiitamay wax badan uu project noqday marka in mar la soo dhammaystiro waa koow tan kaloo labaad sidii hadaayata uu faysal u sheegayo waxyaalo badan oo la isku haysto aan laga heshiinaa jiro khilaafaadka ugu badan hadda ka yimaadana federal governmentiga iyo dowladaha dhexena waxay ku salaysan tahay arrintaas oo ah qaraaraan laga gaarin waxyaalo badan waxa ugu weyn oo qaraarka laga gaarin wuxuu yahay awood qaybsigii iyo khayraadkii sidii loo qaybsan lahaa iyo canshuurihii
iyo assetskii waddanka sida dekedihii iyo dakhliga waddanka soo gala see loo qaybsadaa waxaa ka mid a functionskii yaa qabanaya tacliinta yaa administer garaynaya ama maamulayo caafimaadka yaa maamulayo dowladda dhexe mise dowladda federaalka ah marka howlahaas 2012 cabdiweli gaas madaxweyne gaas markuu aniga booskayga ahaa oo prime ministerka ahaa aan ka wada shaqaynayna guddigii wax ka qoraayay waxay soo geliyeen awood qaybsiay soo geliyeen maamul goboleedyada iyo federaalka annagii aan dowlad ahaan waxaan isla garanay inaan la gaarin waqtigaas maxaa yeelay federal state kaliya jira puntland ah inta kaleeto shabaab baa wada haysta badidiisa markii mucaahado la galaayana yani awood qaybsigaas waa contract marka la galaayo dadka contract galaya inay wada fadhiyaan loo baahan yahay maadaama ay unugyadaas kaleeto oo hadda dhisme aysan jirin haddii aan dhihi lahayn contractgaasaan u gelaynaa maanta waan ku qabsan lahaa marka hadda waxaan ku fiicannahay waxa waaye horta waa loo soo bislaaday federalismka dad badanaa shaki ka qabay dad badan hadda waxay arkeen waxa ugu fiican oo la isugu soo dhawaan kara inay tahay tan labaad hadda inaan bilowno waayo marka debatekii ahaa awood qaybsigii iyo khayraadkii iyo wixii inaan bilowno waayo dib u eegista dastuurka aan samaynayno 2 sano soo socotaan dhamaystirayno waxa ugu weyn horta taasay ku salaysan tahay taas inaan qaraar ka gaarno aad u fiican tahay maxaa yeelay waxaan helaynaa nabad oo ah social peace in laga dhex helo maamul goboleedkii iyo dowladdii federaalka ahaa oo shakiga uu ka baxo wixii la wada leeyahay wixii la kala leeyahay in meel walaana lagu soo qoro oo loo bedelo luqad dastuuri ah ama constitutional language loo bedela markaas group walba waa og tahay waxa ay leedahay iyo groupka kale waxay leeyihiin iyo waxay isla leeyihiin dabcan haddii aan soo dhisana maxkamaddii dastuuriga ahana waa kasii ficnaan doontaa maxaa yeelay goob lagu wada xaajoodaa la heli doonaa annaga marka wada tashiyadan aad samaynayno ujeeddada ka dambaysa waxaa waaye inaan soo ururino xog sidii loo wajihi lahaa 2 sano soo socota kabacdeen inaan sameynaa qorshe hooleed 2 sano ah markaan soo dhammaystirno wada tashiga July dhamaadkeeda waxaan rabnaa inaan qabanno shir daafur ah weyn oo isugu imaanaya 250 qofood oo gobollada iyo madaxda sare iyo ururada bulshada ka imaanayaan taasoo aan ku falaqaynayno qorshe hooleedka aan soo sameynay sidii aan uga wada hadli lahayn horena loogu socon lahaa waxa ka dambeeya waxay noqon doonaan inaan helnaa shirar ay isugu yimaadaan madaxda sare maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe markaasna ay ka wada hadlaan waxyaalihii laga gaari lahaa heshiis ama ha noqoto canshuuraha ha noqdaan ama ha noqdaan dakhliga ha noqdaan ama ha noqdaan khayraadka ha noqdaan ama ha noqdaan functionskii tacliintii iyo wasaaradihii beeraha iyo environment iyo energy iyo see loo yaa ka shaqaynayo yaa dejinayo policygii yaa fulintii samaynayo dhaqaalihii see loo kala qaadanaya waxyaalahaas in laga wada hadlo waxyaalahaas kolleybo waxyaalo oo aad iyo aad u adag waa in la fahmo waa complex dadka fahmaayo waa dad ama engineer ah ama lawyer ah ama resource economist ama resource management ama canshuuraha yaqaanaan marka dadkaas ayaan rajaynaynaa in gobol walbaba inay dad soo dirsadaan oo si commission loo sameeyo oo dad expert ah dadkaas markaas ay soo diyaariyaan optionskii optionno badan hadda la diyaariyeen World Bank iyo gurubyo badan ay ka diyaariyaan khayraadka sidii loo qaybsan lahaa canshuuraha iyo dakhliga laakiin inta la soo jilciyo madaxda inta loo geeyo markaas optionadaas madaxda iyagoo ka fikiraya inay qaraar ka wada gaarno oo markaas aan u bedelnaa language oo sharci ah oo dastuurka lagu daro mar haddii aan taas sameyn waxaan qabaa khilaafaad dambe inuu yaraanayo in dadku ay ku mashquuli doonaan markaas kobcinta dhaqaalaha gobollada meesha hadda ay maamul goboleedyada isfiirsadaan waxyaalo iska emotional isku fiirsadaan ay dhici doonto in lagu tartamo yaa ugu jid fiican yani gobolkee ugu jid fiican gobolkee ugu jaamacad fiican gobolkee ugu isbitaallo fiican in lagu tartami doono
maxaa yeelay mar haddii la kala qaybsaday shaqadii xataa waxaa fududaanayo in dadka rabaan inay maal gashtaan waddanka inay soo degdegaan hadda qaar fara badan shaki ay qabaan qofkii raba maanta inuu ama macdan ama saliid ama inuu contract galo ma geli karo lacagtiisa ma geli karo maxaa yeelay heshiis ma jiro oo ay ku heshiyeen maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka marka taa laftigeeda waxay soo dejin kartaa economic development iyo inuu noo yimaadaa revenue fiican inuu yimaadaa أنا مسكحة أنا كله حتى فدراليزم إنه يهاي قبيل هبل عمل إسكال يتهاي لكن سيلو سعودية فدراليشن كا لقالها أنا لوكب عيا because وحوه وين أو دستور كان أصلا مثلا وحواه إن لو تدجيو أودي يو resources كي موادين كإن لو تدجيو أو citizen كإن لو تدجيو مركا وجودك كده مثلا تاسوا حواه economic development loo geeyo qofka muwaadinka ah meesha ugu hooseyso magaalada ugu hooseyso in lagu geeyo marka waxaan rajaynaynaa debate-kaas inaan wada galno waan isugu soo noqnoqon doonaa tii ugu dambaysa waxay ahayd mar haddii qaraar laga gaaro heshiisyo laga gaaro arrimaha federationka dastuuradan kala duwan hadda oo kan puntland kan jubbaland kan galmudug كل قفل بو سو قري لكن هذه هذا لو هشيو كل قد وحنا بدنا هارمونايز اما وازقلي كلام مركز دي waxay labada laga heshiyo waxaan rabnaa na puntland aniga waxaan weydiisanaynaa aniga as muwaadin Soomaaliyeed iyo puntland qof ka soo jeedo waxaan weydiisanaynaa inaan nala shaqeysaan inaan waqti aan ku ballanay inaan soo dhamaystirnaa wasaaradda dastuurka puntland wasiirka ku-xigeenka waa wada hadalnay waxaan dhex martay sheeko fiican dhex martay waxaan ku ballanay in wixii ahaa wacyigelin ah oo ama mugdi ka jiro inay halkan ku qabtaan shirar magaalooyin kala duwan ma noqoto boosaaso ama ha noqoto gaalkacyo ha noqoto buurtinle goldogob magaalooyinka dhan inay ku qabtaan ayaga shirarkaas si dadkan ay ummadda Soomaaliyeed ay u lahaataa lahaansho inuu ahaato dastuurka 2011 iyo 2012 dastuurka aan soo saarnay waxaan ku qabsaday inuusan si daahfurnaan aan loo sameyn transparency in ummadda dhan aan laga qayb gelinin taas run waaye laakiin sabab waa keentay sababtoo ah magaalooyin badan ma la tegi karin markaas oo waddanka isugu furneen shabaab haysteen tan kalena waxay ahayd in la helay ahayd horta siyaasad in wax lagu soo xalliyo marka ugu horeyso ama political settlement inay soo sameeyaan dadkii powerka markaas haystay markaas waxay ahaayeen saxiixayaashay ahaayeen laakiin documentiga aan soo saarnay ha noqdo qalfoof ama skeleton ha ahaado laakiin danuu noo soo qabtay waana ku shaqaynayna hadda ka bacdi waa la sii wanaajinayaa waxyaaluhu soo qabtay waxaa ka mid ah hadda 2 madaxweyne lagu soo doortay dhowr prime minister lagu soo dhaariyay laba gole shacab baa lagu soo doortay markii ugu dambeysay hadda waxaa la dhisay aqal aan weligiis jirin hore u jiro la yiraahdo aqalka sare ama sanadka marka haddana dib u eegistaan waxa la wixii mugdi ku jira ka soo saarayna oo tuhum ka jiro ama language-ka oo iskhilaafsan yahay Soomaaliga iyo Ingiriiska inta kalena heshiiskaana hadda ka hadlaynaa soo sameynayna waxaan rajaynaynaa 2 sano gudaheeda inaan soo gabagabayno hadalka inaan sii dheeray barraba waxaan rabaa kulligiin inaan idinku mahadiyo inaan idinka soo daaran laga raali ahaada waa mahadsantiin wasiir xoosh waa mahadsan yahay sida kooban ee uu u soo dhaweeyey dooda markii hore runtii ma caddayn oo waxa objectivesku kaleer ma ahayn laakiin hadda waxaad moodaa inuu isagu si fiican u qeexay oo yidhi waxaan doonaynaa inaan afkaar helno afkaarta aan wax ku dhiso runtii waxaa mahad ilaahay xoosh uu ahaa wasiirka hogaaminaya xilligii hore dastuurkii qabiilqoraalka ay hadda maaragtay taagnaa dhibaatooyinka dastuurka ku jirana uu hadda khibrad u leeyahay sidii looga fogaan lahaa
بأي بلاد الجلسة ومرينا وكفوا عنه وقت كان السوق والكيسون الإنسانية خبرتي هاي هذه السوق واحد ونعكس أو بدون تجرينا سيد اللود يقول إنك أسلنا وما هو حالة ذلك لقبل ولكن عن اللوح لقبل على وحشرها كويشن كذا يترضى على صوفه مثل كذا واحد تاع بروسس ولي وزير عن أنا شخصيا دريمية أنتو كي كوريجيسو إليتيزم أما ده حر إيه يسوي وريجيسو حتى أكشن بانك أتجين دونتان وسنجالس المقدون سبب واحد هاي برامج كان أوردن عندك ريحة يسوي international community international community هذا العقل عام في البلد بسوق وسافر ترامي تريس بيجي فيها أمور الصومال بحكي الجيم بهاي سؤال شو واحد هاي ديار موت هاي بطلان أو كان أي تير بطلان يلا عشان كذا كبحسه وإلى تكمل الجاسيو ووزارة الدستور بطلان أنا ما قامت الركوت مش محايل العقل معنا UNDP قولنا بيدل ديار موجين يوم يعرفوا doodaha ku dhaliyaan oo laga saaro arintan ah habeenkii xogaa UNDP ka soo dhacdana in la ordo habeenkii UNDP wax laga waayana inay calal ay noqoto dawladda federaalku ilaa heerkeeba diyaar u tahay source dekada iyo airportka ka soo baxay cashuurta dadka Soomaaliyeed inay geliso doodaha iyo dhiraandhirinta doodaha dastuurka taas waxaan u leeyahay si aan meesha waxaan filayaa waa clear su'aashaad way caddahay wali waa su'aal ay tahay taa waxaan u leeyahay waxay tahay inaan meesha ka saaro hubaal la'aanta marka 2 sano aad dejisid action plan ah oo aad intaas oo lacag u baahan ma iskuma halayn karo lacag meesha laga helayo hadii aydan la iman qoladiina maamul goboleedyada iyo qoladiina federaalku kaleer aadeedin waxaan ku deeqaynaa intaas oo lacag oo yarna waxaan ka helaynaa dawladda federaal midda kale waxay tahay wasiir markii dadka Soomaalida saan la isugu yeero waa la daaliyaa doodo badan bay dhaliyaan wixii waa laga urursadaa laakiin hadhow waxooda waa hal bacaad lagu lis waxa isu taga ninka madaxweynaha ka amarka dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada luqad kale ku wada hadlaan balaay isla jiidaan marka dambena waxa soo baxa wax aan iyagu ku baahays marka sideeba isugu halayn karaa in la helo process cad oo ay nimanka siyaasiyiinta ilaa madaxweyne Farmaajo ilaa madaxweyne Gaas hoos u soo dig ay diyaar u yihiin inay aqbalaan wixii dadka Soomaaliyeed ku taliyaan aan arintu noqon sidii waa garowan iyo garowato aad hogaaminaysay ii tuur aan ku tuure midda kale waxay tahay hal laga ilaaliyo shirarkan oo kale elitismka waxaan ka wada haweenku markay soo fariistaan waxay xoog saaraan FGM-ki haweenku intee kula yihiin dastuurka inta kale dhan way ilaawaan wadaadadu markay soo fariistaan waxay xoog saaraan ma noogu qoray article-ka shariicadu waa base-ka dastuurka labadaasna dastuurku waa ka weeye waxaan rabnaa in dastuurku xoog la saaro dhaqaalaha marka la yimaado si wax u qaybsanayna markay timaado siyaasadda ma presidential system baan qaadanaynaa ma primary qaabka waxaan qaadanaynaa uu hogaaminayo xisbiga uu hogaaminayo oo aan wixii cad yihiin waagi dhaweyd waxa jirta waxa ay sameeyeen qolada oversight-ka iyo waxa la yiri 5 cutub waa laga aamusay waxa loo daayay waa political level siyaasiyiinta ka doodaya halka aniga waxa iga soo baxay inaan wax process xalaal jiri dooneen isla sidii 5tii jabtare ugu adkaa loo deyn doono qolada siyaasiyiinta dastuurkan 143 way anaga hanoo gaaro 500 oo article haduu rabo laakiin waa in wax walba la cadeeyo waxaan aaminsanahay dastuur inaan helo fiican kaliya xal uma aha dawladda Soomaaliya dastuur fiican baa la heli karaa haddaan commitment jirna party baa looga dhaqaaqi karaa marka waa in dadka elitism-kana laga saaraa dooda oo marka haweenku soo fariisanayaan ay bahasha ka eegaan dastuurkana meeno cuntama inagoo haween iyo rag iyo caruur ah wadaadku markuu soo fariisanayna uu ka eegaa meeno cuntama inagoo bulshada Soomaaliyeed ah siyaasiguna markuu soo fariisanayo uu ka eegaa war waxaan ma tahay wax dadka Soomaaliyeed ay bari ku badbaadayaan tusaale awoodaha hadda ka sharqamisay dastuurka xataa sida loogu dhigayo dood baa ka taagan hadda dastuurka ku qodaan sidii kii hore arrimaha dibadda waxa leh dawladda Soomaaliya scope intee leeg ayaa dawladda Soomaaliya leedahay haddii anoo Puntland aan dhaqaaqo oo Ethiopia aan la soo galo heshiis guri aan ku dhisanayo ii sheeg maxaa tekad ama airport ma tahay arrin taabanaysa arrimaha dibadda ma samaan waa in la sheegaa ciidanka waxa la yiri waxa leh dawladda federaalka haddii ciidan badda ilaaliya ay Puntland samaysanayso xaraan ma ka tahay in la cadeeyo laakiin hadda waxa ma in wixii inta la furo iska tafsiir nin walba meel la aado Puntland iyo qolo kale xagga istaagto ay tiraahdo annaga arrintan kuma jidho arrinta arrimaha dibadda arrinta waa annaga gaar loo ah marka waxaan soo jeedinayaa in arrintaas laga taxadaro mid kale waxay tahay commitmentigu inuu cad yahay wasiir ilaa hadda shacab markaan eegno commitmentigu nooma cad hadda waxa tiri مثلا awareness-ka waxa toos u hogaaminaya waxaan wasaaradda dastuurka Puntland civil society wax ka siiya awareness-ka waa in shacabka loo daayo ay civil society hadii kale wali bahash way afduuban tahay waxaana gacanta sare leh maamulada السلام عليكم سؤاشيدو وزير حوش مقع سليمان محمد حسن civil society
wasiir aad baad u mahadsantahay in fact inaad Puntland soo booqatid adigoo hogaaminaya waftigaaga wasaaradda dastuurka su'aashaydu waa mid kooban waxaa la rumaysan yahay Puntland dastuurka Soomaaliya in la bedelay waqtigii dowladdan hadda farmaajo hogaaminayo dowladdii ka horreysay dastuurkii xaqiiqan la oran karo waa dastuurkii ay wada saxiixeen lixdii saxiixayaasha ee lagu saxiixay Nairobi 2012 ayaa ahaa nuqulkii junuunka runta ah waxaan ugu maqaalaa ilaa 26 article in laga bedelay dastuurka Soomaaliya iyadoo loo marin process sax ah oo qawaaniin sax taas iyadoo jirto baa haddana laga bedelaya article kale oo istaba joog ah waqtigii dowladdan farmaajo hogaaminaya ka horreysay adiga hadda ma waxaad dastuurkeen wadaa ma kii 12 la saxiixay lixdii saxiixay 2012 baa wadaa oo la isku raacay ma waxaa wadaa kii la kala saaray oo laga saaray 26 article ma isku soo celisay oo wixii baa isku soo celisay kii hore aad ku celisay oo lixdii saxiixay oo 2012 la saxiixay baad wadaa marka waxaan ka rabnaa detail ka ku saabsan iyo haddaad ka jawaabtid follow up question baan insha Allah yeelan doonaa insha Allah wayahay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا codka waa gaaban yahay waxaan codsanayaa waqtiga oo yar qofku inuu su'aashiisa toos u galo insha Allah waan salaamayaa dadweynaha wasiirka inta ugu horeeya gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka bulshada laamaheeda kala duwan qiimaheeda kala duwan wasiir sida dadku sheegay ku noqon mahayo xoosh waxaad ahayd ninkii dastuurka ugu dambeeyey gacanta ku hayay erge loo sameeyey xamar la isugu tegay halkaas loogu codeeyey 800 qofood kuwa kalena ay ka horreeyeen Garowe 12 waxaa halkan taala dowladdii hadda dhacday wax ka soo la sameeyo horta wuxuu u baahan yihiin waxaas in lagu dhaqmo oo la hirgeliyo waa wax dadku heshiiyey waxaan waa la qori karaa paper baa lagu qori karaa si fiican baa loo qurxin karaa laakiin waxaa in lagu dhaqmo oo la fuliyo oo bulshadaas ku dhaqanto ayaa wax kala ah qof walba oo meesha yimaada power exercise buu ku samaynayaa waxa lagu heshiiyey ayagoo qaarna caddayn qaarna ay cad yihiin marka maxaa damaanad ah waxaa hadda aan wadaay inay noqon doonaan wix ummadda ku heshiisay oo ka duwan wixii horeeto ummaddan waa isdishay waa kala tagtay muxuu ahaa si kastaba eediin cilmo leh ilaahay hadda reconciliation adagna lama gelin oo shacabka Soomaaliyeed intuu isku yimid oo dastuurkaanu umaba oriented umaba ahanba dadkaanu dhaqan kale leeyihiin xeerar kale leeyihiin sidoo nabadooda iyo waxooda ku ceshin jiray xeerarkooda waxaan waxay aad u yaqaanaan ma hal nidaam bay soo barteen ilaa 60kii dowladnimada ay garteen waxay dowlad dhexe hal nin oo xukumo in fact way jiray in wax la doorto process democratization uu jiro intaasoo xisbi waxaan wixii ka dambeeyay maalintaas intaasoo dowladood baa dhashay oo midda hadda ugu dambaysa ah haddeer midda timid ma cadda waxa ay ku dhaqmayso awoodihii weli waa isku qasan yihiin muxuu ahaa resource-ku waa isku qasan yahay haddii shir hadda wasiiradu ay u tagaan statesku oo xamar ay tagaan wasiirka dowladda federaalku wixii oo dhan buu afduubanaya annagu aan weli heshiin marka intaynu heshiinayno maxaa damaanad noo ah wasiir oon ku wada dhaqmaynaa assalaamu calaykum elitism oo ku bilowda oo 7 qofood oo rag ah oo dumar aysan ku jirin ayaa saxiixayaasha ahaa iyagaa saxiixeen saasaana lagu soo kabacdi lagu gudbiyey guddiga golaha ansixinta lagu gudbiyey hadda waxa socdo iyo khilaafaadka hadda socdo saa u sheegtayoo foreign affairs baa
for example hadda dastuurka afar powers kadib ka hadlaya afartaas wuxuu siinayaa dowladda federaalka wuxuu siinayaa arrimaha dibadda difaaca lacagta iyo immigrationka iyo jinsiyadda inta kale waa ka aamusan yahay inta kale waa marka intaan rabna hadda inaan ka galnaa wada heshiis inaan ka galna loo baahan yahay wuxuu uga aamusay aan berigi u samaynana dadaa waxay lahaayeen khalad baa gasheen laakiin waxaan u samaynay waxay xigmada ku jirtay waxay ahayd dadkii arrimahaas ka heshiin lahaa unugyada ka heshiin lahaa horta ha dhismaan maxaa yeele puntland keliya dhisneed marka dibeedkaas hadduu noo bilaabanayo maxaa laakiin aad hadda laysugu qabsanayaa federal government waxbay samaynaysaa gobollada dhexe waxay rabaan iska samaynaya sababta waxaa waaye heshiis lama gaarin meel mugdiya lagu dhex dabaalinayaa marka khilaafaadkaas waa dhacayaan waxay u dhacayaan waxaan ka soo baxnay dagaal sokeeye oo weli aan ku jirnaa shaki badanaa jiro marka sababta keliya hadduu uga baahannahay inaan heshiiskan gaarnaa oo federationka ah waxaa waaye waxaan helaynaa political settlement taas haddaan helno waa la kala degaya marka waa la kala nafasaya yani maxaa yeelay maskaxdeena waxay geli doontaa hadda in laga hadlaa economic development inaan ka hadalnaa oo gurmuhu ay ka fakeraan federal government maxaa iga soo go-ay dhaqaalaha oo aan ku fuliyaa federalism theoryga marka laga hadlaayo theorygeeda waxaa la yidhaahdaa finances follow functions micnaheedu waxaa waaye dhaqaalaha wuxuu soo raacaya functions micnaheedu maxay tahay stateka inta function oo la siiyo haddii la yidhahdo tacliimba adaa wadaysa beeraha adaa ka shaqaynaysa caafimaadka adaa ka shaqaynaysa haddii la yidhaahdo highwayska adaa ka shaqaynaysa haddii la yidhaahdo waxaa waa yani functionska badanoo saasoo kale ay hesho in dhaqaalo loo soo shubo waa marka dhaqaalahaas marka loo soo shubona economic development wuu imaanaya hadda markaa fiiriso Kenya oo ani si fiican aan u darso Kenya federalism keenoo kale qaadatay oo la yidhahdo devolution intaysan qaadanin ka hor 3 sano ka hor ay qaadatay intaysan qaadanin ka hor 4 sano intaysan qaadan ka hor Mandera iyo Wajir iyo Garissa wax yaala ma jirin nal xataa ma lahayn jid oo tarmaag ah ma lahayn maanta haddaad tegtid kulligood waxay leeyihiin 24 saac nal ah jidad tarmaag ah jaamacadihii ku yaalla meelaha dhanaa soo baxeen oo campus ka samaysteen dhakhaatiir ma qabi jirin reer NFD hadda waxay qabaan jaamacadda ugu fiican oo medicine laga furay Garissa marka waxaan rajaynaynaa federalismka dad badan waxay ka aaminsanaayeen khalabay ka aaminsanaayeen laakiin ujeedada ugu weyn waxa waaye inaan hal magaalo la isugu geenin dhaqaale ama resources laakiin magaalooyinka waa badan yihiin magaalooyin badan magac lahaan jiray maanta cid degan ma jirto markaa fiiris yani ka fakar magaalo badan magac lahaan jireen waa laga wada guuro waxa lagu guuro waxay ahayd awoodii iyo resources shacabka waa laga qaaday hal meel la isugu geeyay xamar la isugu geeyay hadda haddaan soo celin waxaan rajaynaynaa marka magaalooyin badan iyo regionska ah inay noqdaan magaalooyin waaweyn oo jaamacado fiican loo isbitaallo fiican loo warshado loo shaqaynayo sida kaliya ku geeri karna taas haddii aan khayraadkan heshiis ka gaarana sanadka soo socdana waxaa laga yaabaa in kambaniyo badan inay investment geliyaan ha noqoto xagga malayga ama seafoodka ha noqoto ama ha noqoto oil iyo gas ha noqoto haddii taas timaadana gacan horsi oo dhamaanaya really haddaan federationkan la hirgelinin saana qof hadda wuxuu taagan saalim waan maleynayaa UNDP yana hortaagan UNDP iyo WHO iyo 30 sano ag taagantaa haddaan annaga aanan keenin revenue ama dhaqaale annaga ama canshuur ha noqoto ama kontraagyo aan galno oo wax kale aan ha noqoto haddaan keenin dowladda ma lagu dhisi karo gacan hoorsi booliiskayga UN lacag iga bixinaysaa dowladda ahaanaya ma soconaysa either dowladda tahay oo waxaaga adaa keenaysa kansanaysa ama dowlad ma tiido saana lagu korfadhinaa taasaan uga baxay waxaa soo hartay maxamed xasan meyno cusmaan arrintan ah dastuurka waxbaa laga bedelay waxaa waaye conspiracy theory baa horta kowla laakiin si fiican lay dhegeysto dastuurkan markii la sameynayo waxaa prime minister ahaa
cabdiweli gaas oo reer puntland anigana waxaan ahaa wasiirka dastuurka wada ana reer puntland ahaa dastuurkan hal mar wax laga bedelay waxay ahayd September 7 2012 September 7 aniga MP aan ahaa markaas iyo kusime wasiir cabdiweli gaas MP waay iyo kusime رئيس وزراء الشيخ شريف وام بي يكسمه مدحوينه حسن الشيخ محمود ام بي كليه بركاس انت سديس مدحوينه نقولنا مجرم جواري كليه واحد برمنت بركاس او سبيكر وودورز وحال بدله waxay ahayd type error oo dhacay oo lahaye baarlamaanka waqtigiisu wuxuu ahaana 4 sano madaxweynahana wuxuu noqonayaa 5 sano runtii markii laga soo wada hadlayo waxay ahayd labadaba 4 sano inay ahaadaan laakiin type error dhacay golihii ansixinta waxay soo jeediyeen baarlamaanka la bedelo mooshin baarlamaanka la geeyay gacan la taagay markaas ku simo waxa prime minister cabdiweli anigana ku simo waxaan ahay wasiir gacanta kullu la wada taagay baarlamaanka ku jira kan labaad la bedelo waxay ahayd waxaa lagu soo qoray article 9 inuu ahaa umaleynaa maqaamka caasimadda waxaa looga gaari doonaa maqaamka ay caasimadda ku leedahay federationka dhexdiisa inay noqonayso state iyo in kale yani waxaa looga gaari doonaa dib u eegis dastuur marka la sameeyo sida hadda wadno kaleeto golihii ansixinta waxay soo jeediyeen waxba kama qabna taas laakiin hala caddeeya hadda caasimadda inay tahay hadda muqdisho resolution laga sameeyay waa la bedelay waxa la yiraahdaa caasimada Soomaaliya Muqdisho waa maqaamkeedana ee federaalka ka noqonaysana si dastuuri ah loo wada hadli doonaa kan saddexaad la bedelo wuxuu ahaa aqalka sare waxaa loo dhigaa aqalka sare madaxweynaha madii la dooranayo aqalka sare iyo aqalka hoose isla dooranayo September 7 aan joognaa markaas September 10 aan madaxweynaha la dooranayo September 7 markaas aqal sare ma dhisna waxaan ku dhigay meesha madaxweynaha waxa dooranaa aqalka sare iyo aqalka hoose waxaan soo jeedinay oo lagu daray dastuurka hadda ku jiro article ilaado 138 farqadiisa labaad oo leeyso aqalka sare waa la laalayaa hadda oo la laalayaa ilaa laga sameeyo aqal sare awoodi uu lahaa aqalka sarena kullu waxa wada fulinaya aqalka hoose sidaas laga bedelay marka meesha oo confusion ka jiraan ku sheegaa waxaan dhahay saxiixayaasha dastuurka ay saxiixayaasha dastuur ma saxiixin some politicians qaarkood oo ku dooda arrintaas saxiixayaasha waxay saxiixeen political agreement saxiixayaal dastuur ma sameyn karaan waxay sameyn karaan waa political leaders waa heshiis siyaasadeed ay saxiixeen dastuur ma aha dada u haysta dastuurkii aan saxiixnay ayaa la bedelay dastuurkaas waa la qaaday xuquuqda qaaday political statements kaas waxa loo bedelay dastuur loo bedelay kabacdi hadana waxa loo gudbiyay guddi la sameeyay jiro guddi farsamo ah oo kulli saxiixayaasha ay kamid ahaayeen ayaga loo gudbiyay kabacdi maalinta ay saxiixayaasha maalintaas ugu dambeysay awood ay ku yeeshaan dastuurka document ay saxiixaan documentii waa la qaaday waxa loo gudbiyay golaha ansixinta oo mathalaya Soomaaliland 825 qof ay ahayd sidii sheekhan u sheegay oo lagu keenay 4.5 gobolada in laga wada keenay ayaga dastuurka daseen laba week waxayna soo jeediyeen drafti ugu dambeeyay ayaga ansixiyeen kan hadda aan hayno oo dib eegis lagu sameeyay kaas waa hal kaliya jiro there is only one document anigana press statement dadka ka soo saaray confusion simid jawaarina waa ka soo saaray midda kaleeto dad badan waxay lahaayeen حسن الشيخ بدله وحنا سد هذا اللي بدله حسن الشيخ ام بي كليوها ما انا هذا انا waxaan ku doodno waxa dastuurka 2012 soo baas gareena anagu ku dhaleeceynayna dawladda hore hal change lagu ma sameeyno shaqo laga ma qabano waa laga seexda ku doodna marka arintaas waxaan qabaa in ay tahay arin iska propaganda ah midda kale UN ka ayaa guardian la ahaayeen mahiiga iyo ana la shaqeynayeen dastuurka laga la shaqeynayeen sida inta la soo baxo intaasoo dad oo ilaa hortooda khiyaano lagu sameeyo meel lagu qorto wax macquul ma haddana
UN-ka iyo international community iyo qof walbaba oo taagan halkaas dastuura jiro laakiin Soomaalida ku tirikuteen hadee badatan waxa waaye wax iska keenaysa arrinta kale oo saddexaad waxay ahayd yaa damaanad qaara in lagu dhaqamaayo waxa kan runtii sababta hadda aysan waxba loo damaanad qaadayno wax walba jaantaar oo inta waxa waaye because dagaaladii aan soo galnay hataa maamul samaynta gobolada hadda la sameeyay sida lagu soo sameeyay waa aragteen siyaasadda lagu soo sameeyay dastuurka sidii ku qornay hab oo qeexana ku qornay in loo sameeyo lama sameeyay maxay wadan dagaal ka soo baxaan shaki iyo balaay in dhaxtaalo waa laga booday dastuurka waxa laakiin isticmaalay siyaasadda lagu soo dhis yani arqaladana ka soo dhicin dagaalada ka soo dhicin laakiin hadda alxamdulillah wax badan soo wada sameysmeeno hadda aan dhihi karno halagu dulmiso wax hana laga soo saaro maamul goboleedyo strong federation wada samaysta intaas uga baxan waxaan filayaa horta arrintan waa laga hadlay ma cusba xoosha kuma cusba wasiir Puntland waxay qabtaa inay tahay iyadu sida adigu u sheegtay hadaayato meeshii u horeeyay laga onkay ama nidaamka federaalka ah ama nidaamka ama dastuurkaba doodiisa meesha ka bilaabatay oo nidaamka federaalkana markii hore iyada hooyo wahay taas marka waxay ku gaartay inay yeelatay dastuurkeeda waxa loo sameeyay afti buuxda looma sameyn laakiin qaab waxa loo sameeyay afti iyadana loo arkay xalin ay ahayd oo ay ka qayb galeen dad badan oo masalayay ama social structure groups ama bulshada qaybaheeda kala duwan kadib waxaa markaa abuurmay haddana ka dambeysay shirarkii halkaan ka dhacay oo lagu sameynayay iyadana loo welqaadayay qaab dhismeedka ay noo yeelanayso dowladda federaalku harmonizationka markaa dastuurkii horeeyay oo inclusive ku ahaa oo idinkuna ka qayb gasheen oo markaas aan filayay inuu ahaa dastuur qaybgaliisu buuxo oo madaxweynayaashii markaa jiray iyo Soomaaliland waa jiray dastuur kaliya uu jiray maxaa isu diiday in la harmonize gareeyo marka dastuurkaas jiray iyo dastuurka in la iswaafajiyo taas waa su'aal midda labaad waxa weeye waxaa tirisay runtii hadda oo si saraaxiya waxyaalihii fikriga dadku qabeen oo ah waxyaalihii laga bedelay waliba iyadoo xusay taariikhii la bedelay iyo sababihii lagu bedelay dadkaana xoogaal waxay u yihiin markasta Puntland cabashooyinkooda waa jireen xoogaalba intaan u wada tahay waa ka fiirsanaynaa dowladda dhexe annaga waa ka fiirsanaynaa sababta waxyaalaha la jabiyey waxyaalaha laga baxay heshiiskii waa laga baxay waa ka mid ahaa xuduudihii waa ka mid ahaa loo sameeyay mataqaanaa guddiyo aan dabcan aan ku xusnayn ama guddiyada waxa ku xusnayn guddiga xuduudaha sameynaya ama guddiga ay yeelanayo baarlamaanku inuu isaga tirfashay oo isa magacaawday oo uusan wax ka siinin markaas isagoo fiirin dastuuradii iyo goboladii kale iyo degmooyinka waxyaalahaasna waxaan filayaa marka inay yahaayeen waxyaalo kale oo iyana kusoo siyaaday su-aasha u dambeeya saddexaad waxa weeye waxaad ballan qaaday haddaayada noo tiri waxaa dhici doonaa shir weyne ballaaran oo xog ururintaan markay dhammaato la isugu imaan doono oo dabcan waddanka oo dhan ee Soomaaliland noqon doona inclusive marka si inclusive ku noqdo shir weynahaasi ergooyinku hadday ku ururaan dad shakhsiyaada oo laga magacaabo meelahan oo kale waxa moodaysaa marka inuusan inclusive noqon karin haddaan loo helin haddii in la gaarsiiyo dhammaan misaal Puntland oo dhan dadka Puntland ku nool wada xuquuq bay leeyihiin dastuurku waa kii lagu wada maamulayay wacyigelin haddeen ama u helin ay kaga dhiibtaan ama fikriga lagu gaarsiin oo ra'yigooda laga soo ururin way jirtaa marka awood dhaqaale iyo awood ku talagal oo loogu talagalay wacyigelinta ballaaran oo lagu gaarsiiyo dadka si ay talooyinkooda uga dhiibtaan shirweynahaas dambe si ay ku masalaan intooda kale markaas intii ka haysa ay ku masalaan sida cad oo aad u sheegtay hadafkii iyo ujeedadii laga lahaa shirka iyo qorshaha aad doonaysaan
bal in lagaga faa'iidaysto in gobolladoo dhan la maro haddii alla ka dhigo federaalada gobollada ka mid ah waxaan markaa oran lahaa wax badan waa ad caddaysay hadda si guud ma jiraan qorshe cad ama strategic plan ee u degsan wasaaradda ama qorshe howleed cad oo haddeertaan aad sii diyaariseen mise un ra'yi keliya aad ururinaysaan oo waxaad tegaysaan state federalist oo dhan baad maraysaan taa inaad noo kala caddayso waa jeclaan lahaa aada iyo aad baad u mahadsantay salaanka bacdi su-aashaydu waa su-aal yaroo urursan wasiir had iyo jeer wixii lagu heshiiyey markii ay wax iska bedelaan oo la yidhaahdo maxaa dhacay oo waxaas mataqaanaa u shaqayn waayeen waxaa la yidhaahdaa aayad qur-aana ma ahayn marka maxaa diidaya maadaama ummadda Soomaaliyeed aanay Kristan iyo mataqaanaa dad diimo kala duwan lahayn oo dad islaam aynu wadanahay inaan dhamaanteen manhaj ka dhigano kitaabka qur-aanka oo inuu isku dhaqno maxaa diidaya oo in kaas ay nagu wada filan dulmana iyo la dulmi mid jiran iyo mid caafimaad qaba mid madax iyo mid loo shaqeeyo kaas ay nagu wada filan maxaa diidaya inaynu ka isku dhaqno su'aashaydu waa taas ما شاء الله dhamaan waa salaamantiin waan idinkaga mahad celinaa soo dhaweynta intaan joognay Garowe magaal madaxda Puntland State civil society qaybada kala duwan runtii impressive discussions ay halkan ka dhacay oo muhiim u ah geedi socodkana kadib eegista dastuurka waxaan doonayaa su-aasha labaad ee qofkii magacii muxuu ahaa abshir su-aashiis labaad ee ku saabsan ma jira strategy hanaan kadib eegista dastuurka inagu waxaan wax ka baranay xiliyadii hore iyo qaldaadkii la galay haddii qaldaadkii la galay runtii lagu sii socdan waxay keenaysaa dhibaato aad iyo aad u ballaaran si annagoo ka faa'iidaysanayna qaldaadkaasi ayaa waxaan sameynay inaan qorsho innaga aan wadano ama xukuumadda federal kaliya ka timid qaybna ay ka ahayn dowlad goboleedyada inaan la imaano taas marabno mana ka bilaabin hawsheena 90 casho qorshe waxaan dejin 90 casho ku salaysan 90 casho qorsheedan wax weeyaan in la sameeyo qorshe ballaaran ee afka qalaad lagu yiraahdo master plan ee loogu talagalay inuu hogaamiyo geedi socodka hanaanka dib u eegista dastuurka qorshahaasi sameynteeduna waxaa qayb ka noqon doona aragtiyooyinka iyo contributionska ay la yimaadaan dowlad goboleedyada qaybahooda kala duwan laga soo bilaabo madaxdoodii madaxweynaha muxuu ahaa baarlamaanka oo dhinaca legislationka u qaabilsan iyo bulshada rayidka qaybahooda kala duwan muqdishona waan kusoo sameynay stateyada dhan waan ku sameynaynaa oo waxaan ku bilownay Garowe aan ku bilownay Puntland State of Somalia ayaan ku bilownay ujeedkan wuxuu yahay hadda aragtiyooyinka aad dhiibanaysaan ayaa wuxuu noqon doonaa mid uu ku salaysnaan doono qorshaha guud ee hagi doona geedi socodka hanaanka dib u eegista dastuurka qorshahan ama howlaha markaan dhamaynana shirka hadda wasiirka uu sheegayay ee July dabayaaqadeeda lagu qaban doono Muqdisho ayaa wuxuu noqon doonaa mid lagu ansixin doono iyadoo ay u wada dhan yihiin dhammaan qaybaha kala duwan ee muxuu ahaa organization institution Soomaaliyeed federal level iyo state level intoodaba waxaana kasoo qayb gali doona qaybaha kala duwan ee bulshada iyo madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada way kasoo qayb galayaan marka qorsho cad annaga sameynay ma jiraan waxaan sameynay maxaa la yiraahdaa skeleton ilan dadku markii aad sameynayso ama aad contribution raadinayso waa inuu jira skeletonkaasna waa lagu dul dhisayaa laakiin skeleton ma aha macnaheedu qorshe dhammaystiran wasaaradda la timid kadibna idinka mataqaanaaye inta xaflad noocan oo kale ama shir waxaa leeyahay Puntland waa lala tashtay anaga ujeedkeena taas ma aha ujeed xalaal ah ay wasaaraddu wadaa oo aan idinka codsanayna inaad nala garab gasho haddii Allah idin سؤالي عبد الله حاجي وأهيد دستورنا ومقابلات جري دستورك فدرالك مع harmonization لو سمين واحد سمين واحد لو سمين واحد هذا كسر قاد بونتلاند وخلا بونتلاند دستور كذا وحي سميستي انت انا بوا فدرالك بلا صولي سيمبو اما لو فكري بوحا markay sameysanaysay waxay samaysay dastuur iyada unique u ah oo baahideeda markaas jirta ka turjumaysa mana jirin wada tashi oo Soomaali isu iimaanaysa ma jirin kuwa kale hadda sameysmay
kii puntland wuxuu ku yimid wadatashi iyo guurto iyo waxyaalahaas ku yimid kuwa kaloo hadda la sameeyey waxay ku yimaadeen rash si dhaqsi ku yimaadeen maxaa yeelay waxaa keenay baahi siyaasadeed iyadoo la rabo si dhaqsi ah maamul loo dhiso hala sameeyo dastuur waa la sameeyey marka meesha ay hadda wax ka cakiran yihiin oo harmonization uusan ka iman karin iyadoon la heshiinin waxa waaye meelihii ku saabsaneed federationka yani marka la dhahay federal aan nahay federaalka magac keliya maaha federal marka qof noqonaya waxay leeyihiin features ama calaamaad ay leeyihiin calaamaadkaas waxa waaye in inay jiraan awoodo ay leeyihiin maamul goboleedka keligood leeyihiin awoodo ay leeyihiin federal governmentka keligood iyo awoodo ay wada leeyihiin waxaa la yidhahdaa exclusive iyo concurrent exclusive ay u tahay gobollada concurrentna waxa way isla leeyihiin waxaas dhan ma dhicin dibadka hadda aan bilaabayno aniga marka waxaan ka fikeraynaa aniga iyo guruguro khubara aan isla shaqeyno haddii heshiis laga gaaro waxyaalaha federation ku saabsan automatic harmonization u dhici doono maxaa yeelay meelaha lagu isku laabsan yahay waxaa meelahaas waa awooddii iyo khayraadkii iyo canshuurihii iyo hadda arag judiciarygii ama maxkamadihii wax isla socdo maaha xamar waxbaa ka socdo inta waxbaa ka socdo meelooyin qaarkood shareeca la isticmaalayaan marka in harmonize garayo waa loo baahan yahay taasna review processkan in agreement uga gaarno cabdullaahi wuxuu kaloo soo jeeday shirka la qabanayo waxaan ka digayaa inuusan noqonin elite isku yimaada dad istaqaano oo isku yimaadaan oo yidhahdaan waxbaan sameynay laakiin soomaaliya dhan laga qayb geliyo la geeyana tuulooyinka iyo magaalooyinka tan kale uu ku daray dhaqaalihiina ma loo haayaa labadaas su-aalba laba su-aal oo aad anaga ugu warsannahay waaye mid horta waa laga go-antahay inaan meel walba geynaa hadda xamar aniga maalinwid wasaaradda waxaan ku talinay dhowr jeer aan shirar tagnay shirarkii waxaa isugu yimid the usual suspects yani in istaqaano adiga mogta ya marka waxaan dhahnay haddii aan xamar ka samaynayno wadatashi inaan tagno waa degmooyinka hal hotel baa imanaysaa dadkii baabuurka wadan karay oo meelaha fiican deganaa unbaa iman kara mogta wixiina soomaaliya wadale mogta marka haddaanan geyn karin wardhiigley iyo hodan iyo meelahaas inaan geyno halkana saasoo kale inaan garow keliya ku istaajino maaha saaka waxaan ku wada hadlayna wasiirka iyo wasiir ku-xigeenka philippine iyo cali sidii hawshaas looga bilaaban lahayd puntland maxaa yeelay in garowga keliya looga hadlo dastuurka halkan waxaan u baahanaa markuu dhammaado in la yeesho ownership ama lahaansho soomaaliga u dhihi karo annaga waxaan u bixinay hashtagan haysano xagga waxaan ka dhignahay sheeke qarameed waxaan wadna inay noqotaa sheeke qarameed oo laga wada sheekeysanayo in gaalkacay la geyn karaayo ay la geyn karaayo garaacad la geyn karaayo goldogob burtille laascaanood meelahaas dhan boosaaso in la geyn karaayo dhaqaalihii ma la heli karaa anigu waxaan misanahay dhaqaalaha in la helo inay tahay ma la heli karaa iska dhaafo tan kalena ninkii saalim baan ku raacsanahay daayta dhahaya UNDP iyo ajnabi dhaqaale laga sugaayo dastuur annaga aan leenahay ma lagu gaari karo taas madaxweyne farmaajo iyo xasan khayre waa ka go-an tahay meel kastaa laga raadiye anagaba hadda mataqaanaa diilada leh UNDP iyo gurubyadaas iyo inkastoo aan dhaqaale iyo waxba aanan ka qaadanin laakiin hadallada noo socdeen laakiin waxay taagan yihiin waxba ha weydiinaba annagaa keenayna mogta I hope asarkeena madaxweyne gaas galabtaan balansannahay isagana commitmentgaas inaan la galnaa wasaaraddana waan ka wada hadalnay waxaa soo hartay walaashay oo tiri kutubka qur-aanka haysanaa maxaa uga baahannahay dastuur kutubka qur-aanka waxa waaye foundationkii aan nolosheenna anaga saa u sheegta waa ummad muslimaan nahay dhaqankeenna iyo diinteennaba muslim waa حتى لقن صومالي أنا ما أمن سنين وجر وعام سنة لقن مسلمين اللي قبلهم دستور كان نرتقي سلولية وحولية دستور كان وحكو سليسية شريعة الإسلام كان وحي كوحد قد بقى أن شريعتنا إن دستور غير دستوريين لكن سؤال أنا ربنا أنا مسوق لي مش وحواه
qur-aanka manhajkeena waa yahay oona ku dhaqanno waa yahay laakiin bulsho isla nool inay isla noolaato qur-aanka wax walba kuuma sheegayo hadda waxyaalaha aan ka hadalno inaan ka hadalno rabno oo very complex ah waxaa ka mid ah khayraadka sida loo qaybsan lahaa khayraadka sidaa u qaybsan lahayn wax siyaasad ah waa wax bini aadan maskaxdiisa ka soo go-aya waa kutubka qur-aanka kuma qorna xadiidka kuma qorna see maamul goboleedyada iyo federal governmentiga see u qaybsadaan haddii oil la helo for example hadda Kenya idiin sheegaya waa fadhiisteen waxay la soo baxeen formula ah yiraahdo 80-20 80% federal governmentiga qaadanaysa 20% gobolkii laga helaa la siinaya laakiin gobolkii laga helay 20%-ga 5% waxaa la siinaya tuuladii laga helay 15-kana gobolka dhan loo wada qaybinaya oo economic development laakiin yaa sameeyey bible-kooda laguma qorna qur-aanna kuma qorna laakiin khubaraa fadhiisteen maskaxda laga shaqaysiiyey ay ku keeneen marka qur-aanka waa asalkeenu waa yahay laakiin annagii inaan isla noolaan haddaan rabno inaan mucaahado bulsho aan samaysano waa taasna wax ku jaban ma laha waqtigii nabiga sal allahu alay wasalamna constitution oo madiina constitution la samaysteen ay jira charter ah oo ah bulshada si uga dhaqmi lahayd ah amasantii marka horeysa waxaan ahay cali cabdi aadan gudoomiyaha naafada Puntland marka xiga waxaan salaamayaa wasiirka iyo tiimkiisa iyo dhammaan ka soo qaybgalayaasha guddiga doorashooyinka waxaan leeyahay guddiga dastuurka iyo wasiirka dastuurka Puntland dhammaan waa salaamayaa salaan kadib aad iyo aad baan wasiirka ugu mahadcelinayaa laba jeer buu qabiilkayga sheegay xamarna waa ku sheegay saakana halkaa markuu taagnaa khudbaynaya waa sheegay qabiilkayga hamoodina kii balada ahay waa qabiilka naafada oo naafa kii balada ayaan loo qaadan marka maadaama aanu nahay dadka la yidhaahdo waxaa la yidhaahdaa dadka baahida gaarka qaba naafada naga daayaan leenahay dadka baahida gaarka qaba waxaanu su'aal weydiinayaa wasiirka iyo tiimkiisa door intee leeg ayaanu ku leenahay dastuurka iyo ka qaybgalka maadaama aan civil society-ga nahay maadaama wasiirku halkaan nagu sheegay xamarna maalinleyooda aan TV-ga ka fiiriyay warka ka maqlay dastuurka maadaama dadka naafada ay marayaan boqolkiiba 40 saa qiyaasayno hadeerna ayba kasii badan doonaan waxbad iyo wiifayaan baabuur waxaanu doonaynaa inaanu ku yeelno door weyn halkeesa ka geli karaa dastuurka iyaga Puntland hadda aynu joogno waa ku jira qodobka 34 baan sheegaya waxaanu xaq u leenahay laakiin assalaamu calaykum waxa yar dhagaaysa siino aad iyo aad baa moodaa inaan soo gaaray xilligii salaada moodaa aan soo gaaray waana soo manahay dhammaanna mayo hawsha meesha maanta aan u fadhino oo 2 sano ayay soconaysaa baa la yidhi waayo aragnimo badanna waa qabnaayo 27 sano baan wax soo kala gadeeynay oo maanta isuma cusbin keliya waxa asal ah xilliga hadda aan marayno inaan la jaan qaadno iyo wixii ka dambeeya Soomaalina waxa weeye war ku nool weeyo waxayna ogeyn maanta oo cid degana wax loo sheegayaa ma ay jiro anu marka waxaan oran lahaa barnaamij balaaran weeye wasaaradda dastuurka federaalku ay waxay wadaan waxa weeye wax aad iyo aad la soo dhaweeyay weeye laakiin wax bisil oo diyaar ah oo urursan baa fiicnaan lahayd in dadweynaha ilaa heertooda la gaarsiiyo laakiin qof walba maxaa haystaa waqti la eg baa ku dhumaya waxaa jira aqal sare oo 18 gobol Soomaaliya lagu saleeyay oo rajeynaya dad badan oo ayaarga inay ku jiraan tala ahaan weeye taas waa oran lahaa 3 bilood la siiyo waxa soo dhaweeyeen meelaha xasaasiga waan wali mar la taaban karin hal la taabto waxa lagu wareegayaa meesha bugta la taaban maye waxa lagu wareegayaa meelihii kale oo wax badan aan ka soo shaqeynay oo ay ugu asal tahay dalkaani inuu midoobo oo walaalo noqdo oo wax wadaago inuu cadaalad helo markii cadaalad la helo ayaa wax walba la helaya qof walba biyo ka dhargaya ama ha aado disable ha noqdo ama qof caafimaad qaba ha noqdo
ama mid mutacallim ha noqdo ama mid jaahil oo baadiye ku nool ha noqdo oo aan ilaaliya ummaddan cadaalad baa deeqday wax kaloo deeqaa ma ay jiraan soomaalidu waxaan u malaynayaa dad wanaagsan weeye oo 20 sano ee burburka ku jiro wali inaanu joogto oo soo taagan tahay wax fudud ma aha ana waqtiga ka faa'iideysano insha Allah ta'ala barnaamijkan haddii la helo maamul wanaagsan iyo cadaalad waxa weeye waa asalku wuxuu noqonayaa diinta lagu dhaqmo halkaas diintu ka imaanaysaa laakiin ima diinta aqoon lahayn baa diin mas'uuliyadda loo dhiibo waxa ma diintu inay fogaato maahan waxba soo dhawaan mayaan wax ku soo dhawaanayaan ninka ku cadaalad badan waa ninka ku diin badan buu noqonaya ninka inuu ku amaana badan buu noqonaya ninka waxa weeye inuu ku cadli badan buu noqonaya qofka xuquuqda qof walba u leeyahay meeshiisa Allah ka cabsi baa lagu gaarsiin karaa xoogaa maalin bal qoray xoogaa laga saaray meel lagu gaari mayo horumar ku gaari mayno marka wax aad iyo aad u soo dhaweynaya barnaamijkaani waliba tala aan siinaya qolada dastuurka xoosh in loo celiyo horta waxa weeye dad ku kalsoon yahay oo ay soo wada doorteen anigu aqalka sare waa malaynayaa in soo wada doortay waa yaragna waa ka buuxaa waxay noo soo dhaweeyeen wassalaamu calaykum waad mahadsan tahay taladaas waxaan filayaa inaad maqlaysay hal su'aal kaliya inoo taalla oo ah naafada gabadhaas ayaan rabaa inaan ku daro kadibna roonkii ugu dambeeyey ayaan hal mar israacinaya wasiirku kowda iyo badhka ayuu la leeyahay labadaan filayaa inuu balan la leeyahay madaxweynaha gabadhaas su'aasheeda iyo naafada markuu ka jawaabo hal roon oo intii ka badan baan bixinaya insha Allah saare jaan saalax waxaan ka marahay dadweynaha degan Puntland waxaan soo dhaweynaa wasiir xoosh iyo waftiga la socota welcome to Garowe waxaan kaloo salaamayaa dadweynaha reer Garowe halkan jooga su'aashaydu waxay ku salaysan tahay qodobka dastuurka halkan yaala oo numberkiisu yahay 48 oo ku saabsan dhulka Soomaaliya dastuurku qodobkan wuxuu qeexayaa in dhulka Soomaalida oo khayraad kale ay ka mid yihiin badda iyo cirka inaan la bixin karin lana liiskareyn karo laakiin aan la bixin karin waxaad moodaa in lately ay waxyaalahaas loopholes ka jiraan oo nin intuu boorso iska qaato dhulka Soomaalida meeshuu doono ka soo saxeeyo aniga as a citizen ku faanta wadanimadeeda iyo Soomaalinimadeeda aad bay ii taabanaysaa in xuquuqdaas lagu tunto oo qofka go'aan ka gaaro oo procedure-kii ay dawladdu qortay oo ahayd in la tashado baarlamaanka iyo sharciga aan la marinin waxa kamid ah kalluumaysiga waxa kamid ah macdanta waxa kamid ah badaha Soomaaliya oo muddo dheer la iska liiskareynayo oo disadvantage-ka ay leedahay in terms of environment iyo dhaqaalaha baan loogeyn taas waxaan doonayaa ama aan ka codsanayaa federaalka inay sharciga lagu noqdo oo laga fiirsado oo tight loo sameeyo tight law oo lagu socdo ta kale dastuurka aan arka loopholes waxa kamid ah waxa la yiraahdo taxation-ka maan kuma atan halkan laakiin waan ku dareemayaa hadda midna hadii ay markab ka soo dego Kismaayo oo alaabtaas ay ku socotay Garowe waxay soo maraysaa destination weyn oo gobolada Soomaaliya oo kale usually wadamada kale marka la eego taxation-ku waxa laga qaadaa boardka ay ka soo degtay laakiin inta u dhaxaysa laga qaado because the destination bay leedahay taasi dadka Soomaaliyeed tijaarada dhibaato ka jirta taana waxa doonaya in dastuurku uu ka eego oo federaalku ay qaynuun waadix u jeediyaan ta kale tasaxtaxaad oo ugu dambaysa weeyaan hadii anigu aan citizen ahay oo aan gobolkeen deganaa aan xuquuqda aan doonayay aan ka helin ma u qaadi karaa higher sida court-ka sare oo federaalka thank you very much mahadsantiin aad oo mahadsan tahay labada su'aalood ka jawaabo halka roon ay ugu dambeeyay galayna oo degdeg laakiin bilis tinna fada waxa waa Ali Abdimeno ururada naafada aadan xamar groupkeeda joogaan iyo group joogaan Jubbaland aaday ugu xiran yihiin wasaaradda 2012 xataa way intervention soo sameeyeen ay leeyihiin ilaa qodobo waa in lagu daraa dastuurka hadda gruubadaas waxaa ka mid ah nin ingiriiska aaday Cabdiraxmaan Luugi la yiraahdo inaan taan maqaan wuxuu soo baaray dastuurada oo wadamada kale oo dariska ah especially kan Kenya wuxuu lahay annaga Kenya ku qoran ma laha kan Kenya waxa ku qoran qodob dhan baa ku qoran oo qeexaya runtiina waa dareensanahay shirka aan la qaadanay annaga naftigeena waxay noo noqotay educational laga wax ka baranimo aniga example ka aan dadka iyo mathalka aan dadka siiyo waxa waaye
dadkeena caadiga ah oo naafada aan ahayn by the way magacaas waa la isku haystaa annaga waxaan dhahaynay shirkeennii ururada waxaan dhahaynay dadka baahida gaarka qabo waa soo istaageen waxay leeyihin waa idin barayna hala dhihina dadka baahida gaarka qabo maxaa dadka baahida gaarka qabo ingiriiska waxaa lagu yidhahdaa persons with special needs badanaana dadka aan wax baran karin oo retardedka ah waaye marka annaga dad wax baran karaan nahay oo maskaxdeena fiican tahay laakiin naafaan nahay marka naafa in la yidhahdo inta laga helayo definition fiican oo af Soomaali ah naafada hana la yidhahdo marka aniga marka midda aan siiyo waxa waaye dadka oo xuquuqda dad badan xuquuq raadis ah ama minorities ka noqdaan ama dumar ka noqdaan laakiin xuquuqda ugu badan dadka ka maqan tahay dadka naafada ah maxaa yeelay intaana kala socotona ma fiirino hal example aan mar walba soo qaataa ka dhig waxa waaye wasaaraddeeda waxay u baahatay nin sharci yaqaan ah ama gabar sharci yaqaan ah oo imtixaan waa loo galay imtixaanka markii loo galay gabar baa ku baastay oo number 1 noqotay dad badan aan galeen markii ku baastay shaqadii waa la siiyey laakiin wasaaraddeeda waxay leedahay 6 dabaq wasalay ku insan tahay dabaqa lixaada xafiiskayga ku yaalla xafiiskeeda ku yaalla elevatorna ma laha ramp lagu soo korana ma laha oo lagu yimaado marka qofkaas anoo u diiday waa shaqadii camal stateka u diiday oo dhaan ma ku hayargaraynayno qofka ugu ficnaana waa shaqada marka unless la gaaro yani adduunka xuquuqda bini'aadamka wuxuu dhigayaana in dadka naafada ah si ay equal loo noqdaan in la siiyo accommodation يعني waxyaalaha needskooda in la sameeyo markaasay nolol tartami karaan laakiin qof tartanka ka reebta marka horeysa ma dhihi kartid mataqaanaa waa simannahay mogta marka waa dadaalaynaa inaan mataqaanaa aan qodob kusoo darnaa idinkana saan oo kaleeto usoo rees gareeya issueska zahro ali meesha abu dabay umaleyna dubay umaleyna meesha zahro isa qaan wax badan arrimahan ku saabsan khayraadka in la dhowro dastuurka dhigaayo environmental in la dhowro maxaa yeelay waxyaalaha aan khayraadka aan leenahay ama dhulka aan degannahay ammaano waay runtii annaga waxaan nahay transitan ku nahay laakiin dadaan laga dambeeyo marka in aan la dhihin wixii rabaa la isaga sameynaya ama toxic waste lagu duuraya ama saliidda sidii loo wada ama baddaan hadda la xaalufinayo kaleeto marka waxaas oo dhan hadda waxay ku xiran yihiin heshiisyada aan lehayna federationka ha ka heshiiyo waxaas markii laga heshiiyo language waa la gelin karaa iyadan la leeyahay wixii aan ku heshiino khayraadka aan doonano aan raadsanno laakiin aan gelinno protection aan gelinno environment ha noqdaan best practice ha noqdaan inaan gelinno iyo inspection in la inspect galayo marka taariikh kale oo labaad ahayd haddaan xuquuqdeeda ka waayo gobolka aan deganahay ma aadi karaa maxkamad sare oo waddanka dhan ah hadda federaalka ah harmonizationka aan hadda wadna hadda waxba ma jiraan laysma haysto waa la kala socdaa cabdullahi mid ay lahayd harmonization baa la sameeyo hadda waxyaalaha marka aan dib eegista ku sameynayna waxaa waaye judiciary system oo cadaalad oo isku wada xiran in la sameeyo oo districtii ka soo baxa taga gobolkii laftigiisa appeal court yeesho appealkaas hadduu qofka ku guulaysan waayo uu tegi karaa appealka federaalka appealkaas hadduu ka waadan supreme courtka federaalka uu tegi karaayo in la sameeyo iyadana waxay u baahan tahay shaqo badan ay u baahan tahay sanadkan waa mahadsantahay mudane wasiir waxaa jiray guddi dib u eegista iyo dhaqangelinta dastuurka oo idinka xataa hortiin ka shaqaynaya dastuurkan shaqooyin badanna ka qabtay ama dadka kala tashadaan ama aysan kala tashan waxay soo jeediyeen talooyin fara badan su-aasheedu marka waxa weeye guddigaasi mee hadda xaggee ku sugan yahay idinka ma idinla socdaa ma shaqaynayaa su-aasha labaadna waxa weeye soo jeedimihii ay soo jeediyeen iyo talooyinka ay soo jeediyeen ma tixgelinaysaan oo ma qaadanaysaan qaar baa yaab lahaa annagu dib baan u eegnay wasalaamu calaykum waraxmatullah mudane wasiir magacaygu waa cabdulqaadir maxamed warsame su-aasheedu waxaa weeyaan marka la yidhaaho constitution badka dal uu leeyahay dadka ku nool oo dhan ayuu quseeyaa
waxaynu ognahay constitutionkan hadda jira waagii la meel marinayay ama aftida loo qaadayay in uu quseeyey ama ay ka qayb galeen maxay ahayday puntland wixii ka bilowda ilaa koonfur adiguna hadda waxaad ku celcelisay xog ururintan iyo reviewga constitutionka in federal state memberska ay maxay ahayday ka qayb galayaan ama guud ahaan ay saameyn doonto dalkuna intaa waa ka badan yahay soo ma moodid halkaa inay ku jirto arrin aan la qarin karin inaad busto saaraysaan meeyey dalka intiisii kale goormayse ku soo biiri doonaan constitutionkan maadaama aysan hadda ku lahayn wax aragtiya aysan waxba ku lahayn ama aysan ka qaybgal ku lahayn goormay ku soo biiri doonaan thank you بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waa Faadmo Diiriye run ahaantii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay horta inay waftigan sharafta leh oo qiimaha leh inoo yimaadaan ay nala soo sheer gareeyaan waxqabadkooda iyo hawsha ay maaragtay inoo soo bandhigeen soo dhawaada waan mahadsantihiin midda labaad dadka run ahaantii waxa loo qabanayo wax qabsanaya waa inaga in inaga la mid baan inaga maqan qof walba oo masuul ah waxa uu ku haboon yahay wixii uu xaq u leeyahay inuu ka hadlo wixii ka maqanna uu sheego marka dastuurka aniga waa talo waxa hadda dhiibayo dastuurka anaga ayaa u baahan isagu nooma baahna waxa ku dhaqmaya waa inaga waxa kala hagaya waa inaga waxa xaq u kala qaybanaya waa inaga isaga oo lagu sareeyay sharciga islaamka ayaa haddana waxa loo baahan yahay in aynu ku raacno wixii talo ah dal soo gooyana aynu taladeena wax ku darsanno taladiisana aynu eegno wixii aan ku leenahay ku darsanno inaan ka harino ka maqnaan midda labaad waxaan talo ahaan soo jeedinayaa dastuurka marka la rogrogayo oo la wado intaan dawladaha iyo maamulada go'aankeeda la aan la gaarin in loo daayo shacabka in la dhex dhigo oo iyaga qolo walba iyo maamul walba iyo deegaan walba dad laga soo qaado aqoon leh oo waliba ehel u ah oo dastuurka ehel u ah oo ah dadka maaragtay cilmigeeda dadku waa kala leeyahay qof wax buu bartay anu hadda cilmiga dastuurka waxba kama aqaan laakiin waxaan jeclahay inaan akhriyo waxaan ku leeyahayna ka arko waxa iga khaldana ka arko intaas waa akhriskaas waa ku roona laakiin wax sharci ah oo ku leeyahay ma jirto dad baa jira cilmi leh u bartay looyaro ah ku takhasusay ka soo shaqeeyay iyagana in laga siiyo kaalintoodii intaasna waxaan leeyahay midda kale bulshada qaybaheeda kala duwan ee ay bulshada reerka ka kooban tahay xaq bay u leedahay inay wax ka ogaadaan waxoodan wax walba oo la soo sameeyana waxa weeyaan waxaan dhahnaa anagu yaani fulixanti ma moogo qolada dawladda meesha sare noo fadhida ayaa ayagu go'aanka gaaray go'aanka noo gaarin anigu adii gaarno markaas idinku naga saxa noo wada anagu aan soo karkarino wax naga siiya talada wabillahi tawfiiq dhammaantiin waan salaamayaa waftiga ugu horeeya wasiirka dastuurka federaalka waxaanu su-aalahaygu waxay noqonayaan haye waay adaa waqtiga cunaya adeerba wasiir maxaa diidaya waxa laga midaysan yahay oo dowladda federaalka iyo maamul goboleedyadu dastuurku qeexayo in la isla ansixiyo horta wax laga midaysan yahay sida arrimaha dibadda tan labaad maxaa wasaaradda dastuurka intaysan ra'yigan hadda shirarkan la qabanayo waxa ugu muhiimsan in la daadajiyo ilaa tuulo ilaa magaalo ilaa gobol sababtoo ah waxa laga yaabaa hadda intaan meesha fadhiya waa in isgaranaysa ama NGOs ha noqdaan ama civil society ha noqdaan ama urur diimeed ha noqdaan waxaa ugu muhiimsan in la daadajiyo dadka lagu wacyigeliyo kadib markaas xogta la helo oo iyadoo dhaatadii markaa dhammaystiran ta labaad waxa awooduhu u leeyihiin khilaafaadka hoose oo dastuuraha oo maamul goboleedyadu leeyihiin in wasaaradda dastuurka Puntland oo kala hadda joogto in ayada loo daayo arrimahan wixii federaalka iyo maamul goboleedka laga wada hadlo taan baa muhiim ah horta aad baan ugu faraxsanahay maaragtay inaan mar labaad xilkaan ku soo laabatid waa runtii waxaan aaminsanahay in mar labaad aan ka gudbi doono xuduudii ahayd qabyadii markii hore transition baan ka soo gudubnay haddana qabyada inaan ka gudbi doono aad baan ugu faraxsanahay inaan kula soo shaqeeyay labadii shir ee Garowe runtii waxay ahayd khibrad aad u fiican su-aasheedu waxay la xiriirtaa dastuurka qabyada waxaa ku qornaa guddiyo guddiyadaasna waxyaalaha aad ugu muhiimsan waxaa ka mid ah guddiga xuduudada waxaa ogtahay waxaa jira banaadir iyo south west waxay isku haystaan dhulbay isku haystaan banaadir iyo hirshabeelle puntland iyo somaliland caqabadaas way taagan tahay waana arrimaha runtii u baahan in xal laga gaaro haddii kale khayraadka lama qaybsan karo dhulka la isku haysto oo dhan khayraad baa ku jira arrintaas maxaa qorshe idinka diyaarsan su-aasheedu intaas la xirta
guddiga waxaa mid waxaa la dhahaa ICRIC midna waxaa la dhahaa oversight committee guddiyadaas ayagoo soo socda waxay soo diyaariyeen dokumento oo dib u eegis ah waa haynaa waan isticmaalaynaa ayadaan ku dul shaqaynaynaa annaga mabaadi'dan ku shaqaynaynaa waxaa ka mid ah dhowr wax mabda ugu horeeya waxa waaye timeka waqtiga inaan ka dhigno 2 sano inaan la jiidin mabda'a labaad su-aashaada soo gelaysa waxa waaye continuity wixii hore loo soo qabtay in wax lagu dul dhiso ee aan la tuurin kan kale waa transparency inay si daahfurnaan u samayno iyo waxaan hadda samaynayno ah inaan dadweynaha kala tashano marka documentkaas waa haynaa July dadka u qaybinayna haddii la helo waxaa soo haray sheekh waa ku mahadsan tahay su-aashaada waxay ahayd dadka gudaha ku jirana concern-kooda waxaa waaye diintii in mataqaanaa la xoojiyo laakiin international community iyo pressure nagu hayso waxaan rabaa inaan kuu sheego qodobka ah mabaadi'da aasaasiga ah waa qodobka 3aad waa dastuurka wuxuu leeyahay dastuurka Soomaaliya wuxuu ku salaysan yahay aasaaska quraanka kariimka iyo sunnada nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam wuxuu kaloona xafidaya ama protect gareynaya maqaasiida ugu sareysa ee shariicada iyo social justice iyo cadaalad marka dastuurka aan dhameynay dad badan dacayada laga filinaya waxaan u dirnay documentigan Azhar University u dirnay jaamacadda Azhar khubaro u dirnay inay audit ku soo sameeyaan inuu shariicada ka hor imaanayo in kale jawaabtii soo baxeen wuxuu ahaa dastuurada wadamada muslimiinta dhan markii la fiiriyo dastuurkaana ugu dhow shariicada runtii marka annaga laftigeennana dad muslimiin aan nahayo wax shariicada ka baxsan in dastuurkeena lagu soo qoro wax suuragal u noqonaysa maaha oo qof siyaasi oo maanta oo ku dhiirigelin kara taas ma jirto maxaa yeele waa suicide adoo sameeya camal waa amaadsan tahay taas waa ku jiraa qodobka afraad shareecada islaamka ka sokow ya constitutionka waa sharciga ugu sarreeya waddanka macnaheedu waxaa waa shareecada ka sarreyso kan labaad farqada labaad sharci kasto ama qaraar maamul kasta oo ka hor imaanayo dastuurka iyo shareecada wuxuu noqonayaa invalid wax shaqeynaya ma noqonayo marka يعني مرة كبارة عندنا تاس دستور كان أو بنتلان يكين ماشي أصلا سجلوا يجين أصهر ورسمة هذا دستور كان دخول لها وحلا لقيت اللي قلنا يا معمول قبل هذا ذلك الدكان قلنا يا لكن طبعا ما قال أنا وحن قبائل ولجد الصوماليلاند Somaliland waxa waaye dastuurka hadaan dhameystirno xataa qaraar waxa jira in afti la qaadin laakiin golo ansixiye la geeyo bas aan hadii afti la qaado macnaheedu waxay noqonaysaa inaan ka maaranay Somaliland marka Somaliland waxa rabaa inaan u furno daliishad oo dastuuri ah ay ka soo geli karaan markuu si fiican u bilowdo wada hadal socdo Turkiga oo ogsoontiin hadda waxa kale oo waxa kalena maxaa yeelay dowladdii hore jirtay waxaan aaminsanahay inaysan ka go'nayn in heshiiskaasi fiican loo galo laakiin hadda dowladda hadda jirto rabtaa inay dardar geliso wada hadallada dib loo bilaabo haddii soo gelaysana inay ka soo gasho si dastuuri ah ka soo gashaa wixii horeeto ahayd Soomaaliya toosoo iyo waa isjecelnahay iyo ma shaqeynaa intaas waxay noqonaysaa in laga wada hadlaa
maxaa la isku haystaa marka yani si dhaba haddaan loo wada hadlin waa ku jeclahay iyo qoloba calankeed waxma dejinaysa marka wax badanaa la isku haystaa fundamental marka oo ay soo gelayso Somaliland waxyaalaha ay tabanayso Khaatumo Awdal Puntland يعني وبير كومبلكس لكن بني آدم هتوصل فريسن وصل كون حد واحد جرو واحد معنا يا مرة تركيا لسوق تجري على جهة اللي جري هو ما هو عايز كويس أنا هو ده أصدقائك كيشيو هو ده إيزي ونقول يسامح لكن أنت تركيا اللي تجوا ريال وين تتجاه فريسن هو ده ما أنت قرار كسو كان لا يدري هو political will مجري والله هو ده حظ لكن هذا حال قبلنا هنا بالدبلو باللعبة تفاضل وحيتلو ninka dhalinyarada wuxuu yiri constitution kii horeeto ma tixgelisay marka kan la qoraayo constitution waa tixgelin hadaa fiirsana waxyaalo badan oo uga mid yihiin meesha ugu weyn ugu duwanahay waa federalism waa dastuurka horeeto wuxuu ahaa unitary central government laakiin mid kale ku sheegay dad badan waxay leedahay dastuuran qabnay maxaa loo dhaafay oo kan hadda loo sameeynaya dastuurkaas ficnaa dastuurkaas هذا تاريخ لتكتب إيطاليا تك أركيبي الفيل ملك السفير دستور كاس ميل لغة ده مجرد لما الإيطالياني أصوبحن هذا قبل يصوتين كات أم بيست على وسط السماء وأنا لو كان بقول إيو صدق يكون قفوض أنا أنسى كان أنت أصلا كدو ذيل 2004 كذا هذا سديت بقول شيء لما تنقف أنسى ها هذا دود ده ولا تنكلا dadka ka hadlayo maamul goboleedyada la sameeyo maxaa loo sameeyaa kuleeyay maamul goboleedyada la sameeyay Talyaaniga u baaneeyay banaadir inta la dhaha inta waxa la dhaha upper Juba inta lower Juba laakiin meel laga dooday ma jirto hadda waa ka doodayna list Soomaaliya inta Brazil maya halkaas iyo halkaas anaga degan meeshaas xuduudeena waa أنا think يعني دبوشيتي تقدر ماشي كي ما ناس ماشي إلك ضدهم حوار كان ما مستملين تان الدستور كان سمينا إنه يهاي عرقلات إنه كيناي عرقلات ما كان يسوي قلت سبحان الله والله الله يعني وحيالها يجرون نقطة إلا والله الله هذا الله يحل محصورنا يا منا هذا أنت كولا الله الآن هشي لنا عافمات في عالم الكاسبانا إيو متى كنا صدقنا ليش يا حوا years ago سنوين كور Soomaaliya wuxuu isku haystay waa dagaalameyna walaal adiga hawiyata adiga isaaqata adiga daaradata adiga habar gidirata hadda maanta waxa ka hadlaynaa dastuurka kala hadlaynaa waxaan leenahay waxaas dastuurka ay ku qoran yihiin inaan ka wada hadalno aan ka wada fariisano khayraadka aan ka wada hadalno marka frame of mind keena xataa uu bedelmo waa wax fiican waa waxaan qabaa inaan soo dhalownahay intuu xuyire waxaa moodaa elite kaliya la isku imaanayaan garoowe iyo xamar iyo la isugu tagaayo dastuurka in la geeyo tuulooyinka watii hadda aan ka hadlayna waa Cabdullaahi uu soo adres garay elite inaan laga waxeel wasaaradana saa u sheegtay waa iyada u xil saaran inay gaarsiisaan dhaqaalihii laakiin inay ka keentiin waa madaxweynaha dhaqaalihii san ugu dambayso abukaata Cabdiwali hore usoo shaqeynay wuxuu dhahay gudiyada jiro si wax u qaban lahayn gudiyada jiro gudiga xuduudaha iyo gudiyo kale dastuuriyo jiro khaladaad ka jiro oo in la toosiyo u baahan runtii waana la saxayaa runna waayo xuduudahaas waa la isku qabsan doonaa iyada laftigeeda waxay ka mid noqon doontaa waxyaalaha dib looga heshiiye inay noqdaan soo gabagabeynayaa waa mahadsantihiin waqtigiina aana siiseen aniga waxaan rabaa inaan idiin sheego bari ka maalin sidii ninka odaga Cusmaan camal inaan la dhihin hadhowdii laba sano ka bacdi inaan la dhihin baalkan mugdiya lagu sameeyey waxbaa laga bedelay haddaba nala socdo haddaa indhaha nagu haystaan nala socotaan hadhowdii ma idinka yeelayno mataqaanaa waxbaa laga bedelaya mogta marka aad u mahadsantihiin aad baa u mahadsan tahay waxaan rabaa inaad ku wareejiso wasiirka intaanad ku wareejin waxaan rabay arrinta la xidhiidha madaxweynayaasha weliba madaxweynayaashu inay qaataan labo basaboor
مثلا مدحوينها بوتلاند ومرايكان وانا بوتلاندر وصومالي بان ليه مدحوينها فدرالك ومرايكان وصومالي marka ay noqoto danaha labada wadan way u wada dhaarteen labadu inay u noqonayaan daacad u noqonayaan Mareykanka ama madaxweynaha oo kale marka deegto iyo dadka siyaasiyiinta adigoo kale ah mansabka macnaheedu wax kala goynaya qalinka haya qaar baa saddex haystaan leeyahay si la yeelaya haddaan ku dhaqmayno dastuurka dastuurka wuxuu leeyahay qodobka saddexaad qof Soomaali citizen ah oo muwaadin ah ma laga qaadi karo muwaadinimadiisa ama xuquuqdiisa sidii asalka ahayd haddii uu xataa waddan kale ka noqdo citizen marka madaxweynaha sida adiga citizen u tahay sida uu yahay marka anna sharci gooni aan ku socdaa asna sharci gooni lagu dhaqo ma qalad ay noqonaysa anigana baasaboorkayga intaa ku darartay dhowr basuud وبعدين أريد أريد توضح بحمل ولا يا فربضل مركا قفك عادي أيو يقفك مدحض أو يكردونان ينبغي فيلا يا مركا الله يجو حقا إنك استوجرا وده ما بدنا شرع قاسي وكلا له وسيرك وسارة دوريستا هو ده إيو وسارة حلا يتستور في الديمقراطية ده ديمقراطية ده وبسوقه وباسمور كيف يلقى وبعدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. horta inaan istaago waxa igu kalifay Caasha Cabdikariim adoo raalli waxa irtaan udur Caasha Cabdikariim baa igu kalifay inaan istaago horta dhammaan waa salaamaya waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa runtii dhammaan dadkeena halkan maanta fadhiya oo force wasiirka ugu horeeyo su'aalihiisa uga jawaabay si looga qayb qaatay qof waliba sidoo maartay speak from the heart meel la oran jiray yani qof waliba uu si niyo ah uga hadlay qofku wax waa ka hadli karaa laakiin difference ku jira waxa weeye qofku markuu si serious oo caloosh iyo madaxa ku jirta uga hadlo iyo markuu si ficil oo caadi ah uga hadlo khiyaaliya waa kala duwan tahay aad iyo aad runtii waxaan uga helay dadku siday u interest garanayeen issue-gan isaga waa aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa waa fahanka maartaan isla fahanay waa inoo soo dhammaatay waxaan kaliya rabay inaan saxo horta guud ahaan arrimahan cloud-ka ah ee federaalka iyo dowlad goboleedyada iyo ku socda oo la leeyahay waxbaa laga bedelay dastuurkii hore iyo ma garanaysaa waxa la wixii la sameeyay horta wax waa jiraan la bedelay laakiin markii ilaahay laga cabsado ka badbadina waa jirtaa ilaahay markaan ka cabsano ka badbadin way jirtaa waxa kale oo la isku qaldaa inta badan sharci kasta dastuurku wuxuu leeyahay qodobo dastuurka ku qoran iyo xeerar ama articles la socda dastuurka qodobadii articleska ku jiray baa dadka badankooda waxay isku darsadaan in laga saaray dastuurkii in laga wada bixiyay hadda waxa laga yaabaa inay qaybo ku jiraan qaarna articleska ahaayeen qaar xataa waxa ku jiray waxa loo yaqaan political agreement oo waxa jiray qaladaadyo badan oo maadaama aan dastuur wan ah uusan dalka Soomaaliya lahayn waxyaabo badan oo waxa jiray political agreement lagu soco si loogu meel gaaro kuwiiba waxa laga dhigay badankoodii in dastuurkii la jabiyo si lagu baabi'iyay laakiin political agreement way ahaayeen marka waxyaabo jirta way jiraan laakiin waxyaabo ka badbadisana waa jiraan qodobka kale oo isaguna muhiimka ah oo walaalkayga halka joogayna uu ka dhawaajiyay wasiirkuna runtii ku celceliyay dhowr goor waxa weeyaan arrintan dib u eegista dastuurka iyo waxa geli doona qodobada hadhow dastuurka geli doona Jaanis hadda shirkan waxa weeye wasaaradda iyaba inoo timid oo fikrkeeni ra'yigeeni
inay nala qaybsato ayay u timid laakiin midka asalka waa midkan hadda soo bilaabayno oo inta degmooyinka aan tegayno oo aan tegayno gobollada oo aqoon-yahanada iyo dadka wax la bidayo aqoonta la bidayo qof walba intuu fadhiisto uu ra'yigiisa ka dhiibanayo kaa weeye kaan soo ururinayno markaynu soo ururino puntland ahaan ayaynu haddana mid guud isugu imanaynaa haddana waynu kala doordooranaynaa markaa kabacdaynu haddana golaha wakiilada usii gudbinaynaa ayaga laftoodaa soo saxaya ama wax ku daraya waxa weeye markaynu inagu aynu meel isku raacnay waxay noqonaysaa inaynu marka federaalkii la aadno si dastuurka weynaa oo qaranka oo one law one person loo heli lahaa inaan marka inagu dhinaceennii aan ka soo diyaar garayno hawshiisa hadday socotaa yaa laga seexanin maalinta hawsha la leeyahay maalintaa ha loo gooyo shaqadii la waday ha la yidhahdo anigu very important arina baan leeyahay waa inaan maanta halkaa tagaa waa in shaqadii la qaybsada oo la yihahdaa qofta dumaree ha aado hawshaas ama odaguna hawsha ha aado ama ma garanaysaa ministerkayga maanta fasax baan ka qaato waxaan aadayaa de arrinta dibogeysta dastuurka ayaan soo diyaarsaday homeworkaygii si aan uga qayb galo si 200 sano kabacdi wiilkaaga wiilkiisa oo ugu dhaqmo sharcigaas inoo kala celiyo dariiq inoo ku sameeyo aan ku noolaano oo aynu ummadaha ilaahay kala mid noqono aniga waxay iga ahayd inaan wax intuso waxba idinma sheegayo waa iga cilmi badantihiin walaalayaal mudanayaal iyo marmooyin arrintan haddaynaan kala shaqayn raggan hawsha madaxa un bay u dhigteen mooyaane dadka u taallo innaga wey hawshan dadka u taallo waa innaga waa inaynu maaragtay aynu gudagallaa una diyaar garownaa ka wasaarad ahaanna annaga diyaar baan nahay haddaan bilaabaynaa sabtida soo socota shirkii ugu horreeyey ee aan ku qaban lahayn degmooyinka gobolladaan qabanaynaa isagii saasaan u wadaynaa dee qarashkii odagu sheegayna waxa weeye wasaaradda iyo waxaan u qaybinaynaa iyo dadka kale diyaarka u ah hawsheena nala wadaan ugu dambayntii waxaan rabaa inaan caasha aan xuso magaceeda caasha cabdikariim xirsi horta anigu maanta runtaa fiicane u malayn maayo in dhawad ilma igama iman laakiin maanta ilma iga timid runtii walaashay xaqiiqada ay ka hadlaysay oo ay niyada uga hadlaysay ayayna ahayd runtii midday taabatay aniga dadka soomaaliyeed waa isku dad waa isku diin waa isku dal waa isku af waa isku midab adduunyadii baa maray africa oo 50 iyo dhowr wadana baa hadda waxaa la raadinayaa sidii la isugu dardari lahaa innagoo soomaaliya joognaa geeska africa ku noolo inta aan soo sheegay aan isaga mid nahay waa ayaan daro laakiin mid baan qabaa anigu dadka soomaaliyeed aan kaga duwanaya dadka badankooda qof waliba markuu hadlay wuxuu yidhaha soomaali baan nahay oo xoogaa hoos baa naloo dhigaa you know what anigu waxaan aaminsanahay dadka soomaaliyeed inaan wax lamida jirin laba arrimood labadaba number 1 qofku markuu wax tirsanayo hadduu u yimaado qofka kale oo yidhahdo dhegayso maalin dhaweed xoogaa waa kugu gafi sanadkii dhaweed xoogaa waa kugu gafi arrin baa ogahay inaad iga xun tahay waa ku cafiyey may cafiyeysaa hadduu yidhaahdo waxaa khasaba qofkaas inuu ilaawaya wixii kaloo dhan ummadda soomaaliyeed baa laga helaa adduunyada kaloo dhan lagama helo inkastoo la yidhaahdo adduunyada oo dhan afka chineska iyo maraykan iyo english iyo carabi waa lagu yidhaahdaa the best person in the whole world waxa weeye qofka yaqaana sorry qofka ugu qiimaha badan waa qofka yaqaana how to say sorry sida loo yidhaahdo iga raalli noqo qofka yaqaana wey waa qofka ugu qiimaha badan dadka soomaaliyeed taasay aada u yaqaanaan qodobka kaleoo muhiimka ah oo aan adduunyada dhan kaga disanahay waxa weeye oo aan dadkeenu inta badan xusin dadkeenu horumar bay yaqaanaan laba tusaalaan keliyaan ka soo qaadanaya dalka kenya magaalada nairobi iyo dalka maraykanka magaalada minneapolis la yihahdo minnesota labadaba ma intaan soomaalidu tegin ka hor waxay adduunyada iyo dalalka ay aan magacaabay kaga duwanaayeen economically financially maxaan kuu sheegaa socially wax walba dadka ay la degayiin waa kaga duwanaayeen soomaaliya bedeshay waa la wada ogyahay adduunka oo dhan dadka soomaaliyeed baad bedelay markaas waxay ka mid noqdeen low makerska waxay ka mid noqdeen macallimiinta iyo professorska wax ka dhiga waa iyaga waxay ka mid noqdeen ownershipka waddanka ayay yeesheen ganacsiga iyagaa leh maanta hadday soomaaliya ka soo baxda kenya mutacalimiintii baa jooga waxaa wada jooga professoradii it will be collapsed for sure kenya haddii maanta soomaaliya ka soo baxdo minneapolis waddanka la yidhaahdo wax kasta intaan ka soo dhawaajiyey ilaa soomaaliya ay ka tagtay ma aysan noqon stable wax noqday ma jiraan dadkii waddanka u dhashayna waxay ogaadeen
inaynu problemyo yarar jiraan laakiin aan very serious human being nahay hal la ogaado inaynu ummadda ugu sarreyno laakiin understandingka yarkaa aan isla garano waan dheereeyey iga raali noqda walaalihii jira noqda wasiir haddaad ii ogolaato iyo walaalahay waxaan oran lahaa si official ayaynu shirkeennii qiimaha badnaa inuu ku xiran yahay